السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wacan maalin wacan salaan ka bacdi waxa aynu toos u bilaabi doonaa sessionkeenii ku saabsanaa khayraadka kalluumaysiga iyo caqabadaha hortaagan fursadaha haystaan iyo caqabadaha hortaagan oo inoo qabtay maxadka Horn Institute for Peace and Development marka loo soo gaabiyo hibad waxay noogu martay barnaamijka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi wasiirka hore kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa marka koowaad soo dhaweynayaa Dr. Cabdiraxmaan saacadda wasiir soo dhawow iyo ka soo qaybgalayaasha kale dhamaantood aad baan idin soo dhaweynaya dhamaantiin aad baa u mahadsantahay sharaf weyn bay ii tahay in aan xafladan inagala soo qayb galo marka aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan u mahad celinayaa maxadka marka labaadna waxaan u mahad celinayaa aan salaamaya isla markaana dadka akhyaarta inaad daawanayso meel kastoo dowladda ka joogto waa mahadsantahay aad baad mahadsantahay saacadda wasiir Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo wasiirka hore kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya sanadda markay ahayd soo shaqeeyay waqtigii 2017 ilaa 2018 sidoo kale wuxuu ahaa secretary-gii economic committee-ga ama guddida dhaqaalaha golaha wasiirada Dr. Xaashi wuxuu PhD ka sitaa Monetary and International Economics ee jaamacadda George Mason University wuxuu double master ka sitaa master degree wuxuu ka sitaa Applied Economics and Finance jaamacadda Johns Hopkins University wuxuu leeyahay experience 25 sano inuu ka soo shaqeeyay Wall Street iyo World Bank isagu waa qoray Islamic Banking and Study in Shaky Times Google la magac baxay oo author ka qoray finally Dr. Cabdiraxmaan waxa weeye chairperson-ka amba guddoomiyaha badbaada qaran party xisbiga badbaada qaran waa guddoomiyaheeda mar koowaad iyo mar labaadba waxay idin codsanayaan inaad ila soo dhaweysaan wasiirkeena Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi soo dhawo Dr. stage is yours bismillahir rahmanir rahim marka ugu horeysa waxa aan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan dadka akhyaarta ee nalaga daawanaysa barnaamijkan meel kasta ay joogaan war murtiyeedkan ama warbixintaydan ama presentationkaygan laba qaybood buu ka koobnaan doonaa haddii lahaydmo qaybta hore waxaan uga hadli doonaa arrimaha kalluumaysiga qaybta labaadna waxaan uga hadli doonaa dhaqaalaha guud ee waddanka marka labadaa qaybood buu ka koobnaan doonaa warbixintaydu ilaa muddo 30 daqiiqa sidaan u fahmay ilaa 20 daqiiqo meelaha arrimaha kalluumaysiga arrimahaasaan ka hadlaya 10 daqiiqo ugu dambeysana guud ahaan iyadoo kooban arrimaha dhaqaalahan ka hadlaya marka haddaan ka bilaabo runtii arrimahan kalluumaysiga ilaa mahaddii Soomaaliya ilaahay wuxuu ku manaystay badda ugu dheer qaaradda Afrika oo ka kooban 3,333 kilomitir oo dhererkeedu yahay waxa kale oo aaga dhaqaalaha ama afka Ingiriisiga lagu yiraahdo special economic zone waxa weeyaan 1.2 ama 1 milyan iyo 2 square kilometers weeyaan maaragtay aaga dhaqaalaha waddankeenu ilaa mahaddii badda weyn oo Soomaaliya waxa ka buuxa kalluun fara badan oo noocyaal badan oo kala duwan dhinaca haddii la eego galbeedka Indian Ocean ka inaku ku naalo waxa lagu qiyaasaa inuu yahay ballaciisu ilaa 30 milyan oo square kilometer oo caan ku ah meelaha ugu qanisan kalluunka oo nooc kasta leh oo dunida ah marka taasina waa ilaa mahaddii weeyaan haddii aan marka u guda galo oo aan ka warramo marka ugu horeysa fursadaha ugu waaweyn ee waddanka maaragtay kalluumaysigu uu leeyahay ugu horeysa waxa weeyaan dee waa saan hore u sheegay waa dhulka baaxadda oo kalluun nooc kasta uu leeyahay waxaana anagu markii aan intaan wasaaradda joogay oo 18 bilood aan wasiirka ahaa
waxaan sameynay qorshe aan waddanka u dejinay qorshahaasna waxa weeyaan runtii waxaan doonaynay 4 sano soo socota sidii wax looga soo saari lahaa sida dadka xoogiisa uu ka warqabo wax badan hadda runtii dhaqaalaha waddankeena kama soo galo kalluumaysigu waxa weeyaan hadday ugu badato dadka kalluumaysatada xeebaha jooga wax ay maalintii cunaan ama wax saas oo kale ah unbay runtii ka soo saaraan marka qorshahanaan soo bandhignay runtii waxaan eegnay sidii loo gelin lahaa maalgashi qaybo kala duwan ee maaragtay kalluumaysiga si wax soo saarkiisu kor ugu kaco marka waxyaalaha loo baahan yahay in haddii wax soo saar badan uu ka soo baxo dakhli badanna waddanka dowladda ka soo galo shacbigana ka soo galo dhaqaalo badan iyo maaragtay uu ka soo galo waxaa loo baahan yahay in maalgashi la geliyo qaboojiyaal oo ah kuwa ugu waaweyn xeebaha la dhigo waxa kale oo loo baahan yahay in la sameeyo meelo baraf badan uu ka jiri karo si marka kalluunka la soo qato markiiba ama dooniyaha saarnaadeen ama xeebaha ku yaaleen caqabadaha kale oo waaweyn oo Soomaaliya hortaagan waxaa ka mid ah kalluunka sharci darrada ee waddankeena wadamo badan iyo dad badan oo dunidu ay ka gurtaan dadku waxay ku qiyaasaan ilaa 300 ilaa 600 oo milyan oo dollar lacagta sanadkii maaragtay ina laga dhaco ama inaga luntay haddaan nahay waddan ahaan anigu intii aan wasiirka ahaa waxa aan arrintaas ku daynay inaan wax ka qabano golaha ammaanku wuxuu leeyahay qaraar ay soo saareen oo ku saabsan burcadbadeeda marka resolutionka ama qaraarkaas 2 sannadoodba waa la cusboonaysiiyaa marka anigoo la shaqeynaya danjiraha inoo fadhiya qaramada midooday Abuukar Cismaan Abuukar Baale markii uu qaraarkaasi uu dhaco la rabo in dib loo cusboonaysiiyo waxaan isku daynay in aan ku darno sharci darrada kalluumaysiga isla markaana ay hore u jirtay tii maaragtay burcadbadeeda dadaal xoog laan sameynay hase ahaatee waxaa annaka aad nooga hor yimi European Unionka oo waddanka Faransiiska la yidhaaho ugu jiro golaha ammaanka markaana way diideen inaan ku darno arrintii sharci darrada kalluumaysiga marka waxa qaraarkii noqday burcadbadeed oo keliya saad ka warqabtaan Soomaalidu burcadbadeedu mar hore u dhammaaday oo runtii hadda wax weyn oo saasa kama jiraan hase ahaatee waxaad moodaa wadamadaas European Unionka oo ka mid ah wadamada Faransiiska iyo waddanka la yidhaho Spain waa kuwa ugu badan oo kalluunka sharci darrada xeebaha Soomaaliya uga qaata waxay u egtahay in dantooda khaaska ay ka doonayaan ayna doonaynin in maaragtay sharci darrada kalluumaysiga lagu daro taa haddaan kasii gudbo waxyaalaha kale oo caqabadaha waaweyn si wax soo saar badan looga sameeyo maaragtay kalluumaysiga Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inuu haysatid shati caddeynaya caafimaadka ama waxa la yidhaho health certification taasina waa mid dunida oo dhan hal kalluun ama malaya ma gadi kartid adigoo haysta certificationka caafimaadka ah marka taana ma lihin marka qorshahan anagu keenay intii mudday qaadan doonta intii maaragtay laboratory oo kale laga dhisi lahaa marka waxa aan shirkad la yidhaho SGS oo waddanka Switzerland laga leeyahay oo xarun weyn ku leh Kenya shirkadaasaan bilownay inaan heshiis la galno si dadka wax dhoofinaya ay u siiyaan maaragtay shatiga ama maaragtay in caafimaadka oo kale ay maaragtay ka gudbeen markii la baaray marka taasina waa muhiim weeyaan in la helo maaragtay shatigaas maaragtay caafimaadka si dunida looga gado waxa kale oo muhiim ah oo nasiib wanaaga maadaama waddankeenu dagaal sokeeye ka soo baxay waxa ay European Unionku oo marketkooda oo 28 waddan ka kooban hadda Ingiriiska ka baxay waa 27 waa marketka ugu weyn ama waa suuqa ugu weyn ee cuntada la cuno ee cuntada maaragtay seafoodka loo yaqaan cuntada kalluunka iyo maaragtay waxaas oo kale ah marka marketkaas waa market weyn Soomaaliya waxay siiyaan fursad ay leeyihiin si aan u naasnuujino dhaqaalaha waddankeena uga soo baxo dagaalkaas sokeeye cashuuro badan iyo waxa la yidhaahdo taarifka oo dadka ku gadaya maaragtay alaabadooda ama kalluunkooda waxa ku gadaya innaka aad bay nooga yareeyeen oo waxay yidhaaheen si kalluumaysatadiina gacan u siino hase ahaatee waxaa nasiib darro ah in dadka xooggiisu ayna awood lahayn inay
certificationka caafimaadkii waxaa loo baahan yahay iyo maalgashi badan bay u baahan tahay marka waa fursad inaga beerdarowday ama inaga luntay taa haddaan ka gudbo waxyaalaha loo baahan yahay in la dhiso maaragtay kalluumaysiga Soomaaliya waxaa loo baahan yahay xeebaha sidaan u sheegay qaboojiyaasha ka sokow waxaa loo baahan yahay in laga sameeyo warshado ama waxa la yidhaahdo fish processing facilities oo ku yaala xeebaha waddanka taas oo kalluunka marka la soo qabto oo maaragtay la qaboojiyo oo maaragtay barafka la geliyo madaxa iyo calooshii intaa waxaa laga saaro markaana la isku dayo in lagu rido bacihii supermarketka dunida looga gadi lahaa si markaa loo dhoofiyo ama diyaarad loo saaro ama maraakiib loo saaro marka waxaa la yidhaha maaragtay warshadahaasi waa muhiim bay ka yihiin qayb inaan maalgashi samaysano waxaa kaloo loo baahan yahay in maraakiib ama yaryar ama doonyo waaweyn oo casriya oo kuwa aanan maaragtay gaas badan ama maaragtay batrool badan cunin meel fogna gaari kara isla markaana leh qalabka isgaadhsiinta iyo qalabka kalluumaysiga ku rakiban yihiin iyo meelo badan oo maaragtay baraf leh oo marka kalluunka la qabto la geliyo si uuna u qurmin ama u xumaanin oo qualitygiisu u sarreeyo waxaa kaloo muhiim ah in xeebaha laga dhiso meelaha aan ahayn deked laakiin waxa la yidhaahaa jets oo waa meelo maaragtay dooniyuhu ku soo qabsan karaan oo maaragtay sina badda ama maaragtay jabalada ugu dhicin oo dunidoo dhan ka jiraan oo dekedna waa ka yartahay laakiin waa wax kaloo meel dhaxa kuwaasna Soomaaliya aad bay ugu baahan tahay magaalooyinka iyo tuulooyinka badan oo kalluumaysiga ah waxaa kaloo iyaduna muhiim ah in baabuur trucks oo waaweyn oo qaboojiyaal leh inay iyakuna jiraan si ay maaragtay u gaadhsiin karaan haddii waddanka gudihiisa ama hadday noqoto wadamada dariskana sida Ethiopia oo kale oo waddan aan bad lahayn oo 110 milyan oo qof aan wax uga gari karno waxaa kaloo muhiim ah iyada magaalooyinka ama tuulooyinka kalluumaysiga ee xeebaha ku yaala Soomaaliya dariiqyada aad uma wanaagsan oo waa dariiqyo maaragtay aanan ahayn laami marka waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo feeder roads dariiqyo yar oo badan oo laami loo baahan in xeebaha laga sameeyo oo lagu soo xiro dariiqa weyn oo saga socda koonfur iyo waqooyi Soomaaliya oo ka hadda Chinese ku inoo dhisay kuwaasina qayb bay ka mid tahay arrimaha loo baahan yahay maaragtay iyakana waxa kaloo iyaduna muhiim ah in la dhiso kawaano badan oo kalluunka oo casri ah in waddanka laga sameeyo oo iyaduna muhiim tahay taasi waa waxyaalaha loo baahan yahay si loo casriyeeyo oo maaragtay kalluumaysiga wax looga qabto waxyaalaha kale oo muhiimka oo loo baahan yahay waxaa ka mid ah in wasaaradda kalluumaysiga ee federaalka iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee gobollada in la xoojiyo tayadooda iyo maaragtay dadka ka shaqeeya xirfadahooda iyo tababaro la siiyo waxyaalaha loo baahan yahay laga tababaro dadka la yidhaaho inspectors ama dadka kalluunka eega oo maaragtay ama hadday noqoto inaad shati haddaad bixinaysid oo waddankii la siiyey shati oo kale markabkooda dad fuuli kara oo hubin kara in intii loogu talagalay markay qabsadaan inay joojiyaan maaragtay intii shatiga lagu siiyey taasina waa tababaro loo baahan yahay in wasaaradaha kalluumaysiga ee gobollada iyo federaalka la sameeyo waxaa kaloo loo baahan yahay dad badan in khibrad laga siiyo arrimaha la xidhiidha sida loo maamulo kalluumaysiga iyo maaragtay kalluunka kala duwan waxaa kaloo waddankeena u baahan yahay dad badan oo scientist ah oo yar oo dhalinyaro ah in dunida loo diro oo lasoo tababaro si ay markaa cilmi baadhis iyo waxaas oo kale waxa la xidhiidha ay waddanka uga samayn karaan waxaa kaloo loo baahan yahay dad khubaraa oo ku leh arrimaha sharciga kalluumaysiga iyo sharciga badaha taasina waa muhiim waa qayb muhiim ah waxaa kaloon u baahannahay dad badan in loo tababaro xirfadaha la xidhiidha sida marketingka ama sida loo suuq geeyo iyo sida loo qiimeeyo ama pricingka waxa la yidhaahdo ku saabsan kalluumaysiga iyo cuntada maaragtay badda ah waxaa kaloo iyadana muhiim ah inaan sameyno xarumo ku yaallo dhowr meelood oo waddanka ka mid ah xeebihiisa oo meelaha laga eego maaragtay maraakiibtii marasa xeebaheena iyo haddii la rabo in maraakiib sharci darra hadday marayaan oo kale loo maaragtay looga ilaaliyo ama waxa la yidhaha fish monitoring centers oo kale ah waxaa kaloo ugu dambeyntii muhiim ah in jaamacadaha dunida ee caan ku ah arrimahan kalluumaysiga iyo maaragtay cilmiyadaas iyo jaamacadda waddankeena iyo dowladdeena inay maaragtay cilmi baadhis iyo research oo kale ay maaragtay noqdaan dad iyaguna runtii aad wax uga wada maaragtay iska kaashada taana u baahan iyo in loo baahan yahay in macluumaad badan oo ama data la yidhaaho badan oo la ururiyo oo maaragtay la ururiyo waxa kaloo jirta cilmi isaguna aad iyo aad u khaasusa oo la yidhaaho
si uu maaragtay kalluunkeenu maaragtay uu muddo dheer inoo hayo aan uga faa'iidaysano waxaa loo baahan yahay in la eego maaragtay meelaha aad looga kalluumaysto marka la ogaado in la daayo dhulkaas oo maaragtay kalluumaysiga aan loo ogolan ama shatiyaal loo siinin meelaha kale oo qaniga ku yahay in maaragtay markaana shatiga laga bixiyo ama dadka loo ogolaado inay ka kalluumaystaan arrimaha afka ingiriisiga waxa lagu yidhahaa mapping baa lagu yidhahaa taa macnaheedu waxa weeyaan waxaa loo baahan inaad ogaatid badda weyn oo ilaahay nagu manaystay inaan cilmi ku sameyno aan ogaano noocyada kalluunku meelaha kala duwan uu joogo oo waddankeenna si markaa macluumaadka aan u hayno macluumaadkaasi waa macluumaad muhiim ah oo marka aan rabno dad investors oo dunida inaan maaragtay soo jiidano ama dhaano waddankayga imaado maalgashada waxayna weydiinayaan inaad haysatid macluumaadkaas iyo macluumaadkaas oo dhan marka taasina waa qayb iyaduna muhiima weeyaan marka arrimahaas oo dhan waa arrimahan qorshe 4 sannadood aan u sameynay markaana waa arrimaha loo baahan yahay in wax soo saar badan oo waddankeena maaragtay ka soo galo haddaan imika xoogaa yar kale waxaan iga sheego anigu sidaan horey ugu sheegay 18 bilood baan wasiir ahaa marka waxaan rabaa 3-4 qodob oo waxyaalihii noo suuroobay intii aan anigu wasiirka ahaa maaragtay noo suuroobay ta ugu horeysa waxa weeyaan sida dastuurka waddankeena u yaala oo ah dastuurka kumeelgaarka ah waxa si cad ugu qeexan in khayraadka waddanka ay wada qaybsadaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo markaana ay ku heshiiyaan dakhligii ka soo gali lahaa maaragtay bixinta shatiyada ama warshado ama wixii kale ah si markaa dakhligii loo kala qaybsado percentage oo kale ah loo kala qaybsado marka arrintaasaa muhiim ah inuu heshiiskaasi jiro haddii kale wax hal shati oo maaragtay dowladda federaalku oo ay bixin kartaa ma jirto marka dhowr jeer oo horaa la isku dayay in heshiiska ay wada gaadhaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku waa lagu guurdareystay runtii markii xukuumaddii xasan sheekh dhowr jeer baa la isku dayay inay heshiis wada galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu markii xukuumaddan hadda waddanka ka talisa ay xukunka timi iyaduna waxay isku dayday dadaalkii inay sii wado halkii kasii wado taana markii aan sameynay runtii shir baan u qabanay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku isugu yimaadeen xamar bishii April 2017 oo 3 bari aan ku shiranay magaalada Muqdisho nasiib darro waxay noqotay annaguna wax go'aana waa ka gaari kari weynay oo la isku fahmi waayay qaybtii loo qaybsan lahaa maaragtay kalluumaysiga khayraadka dakhliga ka soo gala marka sanadka bacdi 2018 bishii Febraayo baa waxa isugu yimi waa kuwa dadku say ka wada warqabaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada baa waxay yimaadaan Muqdisho arrimaha amniga ka hadlaan marka fursad baan anaku maaragtay ka codsanay inaan warbixin iyo presentation u soo bandhigno madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo aan u sheegno inay runtii wax nasiib darro ay tahay badeennii oo buuxdo oo kalluun nooc kasta uu ku jiro in ayna inoo suuroobaynin inuu $1 inaga soo galo iyada oo dad kale oo fara badan oo ajnabi oo xadaya kalluunkeena malaayiin qaata sababtuna ay tahay innakii oo heshiin weynay qaabkii loo qaybsan lahaa dakhliga gacmihiina inaku iska xidhnay markaan u soo bandhignay runtii warbixintayadii iyo macluumaadkii aad iyo aad ra'yigoodii waxay u bedeshay madaxdii maaragtay joogtay markaa Muqdisho timi ilaa ma haddaan inii soo koobo heshiis baan gaarnay heshiis kumeel gaadh ah oo afka ingiriisiga lagu yidhaaho interim fishery agreement waa ka hadda maaragtay jiro oo interim fisheries revenue sharing agreement ama heshiis kumeel gaadha ee qaybsiga dakhliga ka soo gala kalluumaysiga heshiiskaasi waa ka hadda waddanka u jira Soomaaliya oo sanad ka warqabtaan dhawaan intaan anigu dowladda ka tegay shirkado Chinese lagu siiyay shatiyada aad ka warqabtaan heshiiskaas oo aan maaragtay soo dhameynay taasi waa waxyaalaha ugu muhiimsanaa waa runtii oo aan maaragtay ilaa ma hadii ku guuleysanay waxa kale oo aan runtii intii aan wasiirka ahaa anigu oo aan sameynay waxaan qabanay maraakiib laga leeyahay waddanka Thailand 7 kamida mid kamida oo wax badan sharci darro maaragtay waddankeena uga kalluumaysanayay isagoo xeebaha tagaya waddanka Thailand bay dowladda Thailand noo soo sheegtay tiri markabkan waxaan u maleynaynaa inuu shatiyo khalad wato oo maaragtay kalluunka Soomaaliya ka soo qaaday
shatiyadii iyo dokumentooyinkii markaan eegnay waxaa noo caddaatay in maaragtay waxaa noo caddaatay in shatigu u wataa mid khalada yahay. markaana waxaan ka codsanay dowladda Thailand inay markabkaa qabato. markabkaana waa la qabtay annagoo isticmaalana heshiisay wadamo badan oo dunida ku jira ay gaadheen oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ama UN-ku ay hay-addiisa la yidhaaho FAW ay iyadu runtii FAO baan u jeedaa hay-addaasi heshiiskaas oo la saxeexay waqtigii xasan sheikh xukuumaddiisii. heshiiskaasi wuxuu noo ogolaaday annaka in aanu awoodi karno in awood u leenahay in naloo qabto maraakiibtii sharci darro waddankeena uga kalluumaysata. marka markabkaa waan qabanay kalluunkii saarnaaya isagoo dhanna waa la xaraashay lacag $16 milyan oo intaan anigu dowladda ka tegay baa waddankeena loo soo wareejiyey. taasina waxay arrimaha ugu muhiimka wax ka qaban oo guusha. ugu dambeyntii intii aan anigu dowladda ku jiray waxa aan tagnay shirar badan oo wadamada Indian Ocean-ka ku yaala oo maaragtay heshiis ku ah. haddaad eegtid kalluunka ugu qiimo badan dunida waa kalluunka tuunaha la yidhaaho. marka tuunuhu waa guuraa weeyaan 6 bilood oo kaluu xeebeheena soo maraa sanadkii. 6daa bilood markuu badan galbeedkan Indian Ocean-ka oo Soomaaliya ku taalo, Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa. marka 3 wadan oo ah Mozambique, Kenya iyo Tanzania heshiis ku meel gaar bay gaadheen oo la yidhaaho Maputo Accord. heshiiskaasna macnihiisu wuxuu ahaa wadamadan shatiyada dunida ka qaatay kalluumaysiga oo shirkadaha waaweyn waxay isku dayaan inay gooni waddan kasta intay ugu tagaan kalluunkooda wax lacag yar oo raqiisa qolo kasta intay la gorgortamaan ay yidhahaan haddii aydan lacag yar nagu siinin shatiyadayada waxaan u teganaa wadamo kale, waddanka kaloo dariskiina abaan iyakaan ka gadanana. markaas haddii uu kaasi diidana ka kale usii tagaa. marka si ay isaga kaashadaan oo gaashaanbuur u samaystaan sida OPEC oil oo kale maaragtay shirkadahoodu ay maaragtay wadamada ku jira ay gaashaanbuur samaysteen. 3daa wadan oo Kenya, Tanzania iyo Mozambique alliance bay bilaabeen. markaana anigu mar aan ugu tegay Thailand oo aan shir weyn isugu tagnay waddanka South Africa iyo annaka waxaan markaa soo jeediyey inaan ku biirno maaragtay gaashaanbuurta oo tuunaha ku saabsan si markaa bargainingkeena ama gorgortankeenu aan wax fiican oo weyn uga helno. arrintaas waxay ahayd 2 bilood intii anigu aan dowladda kasii tegay ka hor kadib bay ahayd in heshiiska la dhameeyo. laakiin nasiib darro saan ka warqabo heshiiska ama alliance-ka lama dhameynin. marka haddii aan maaragtay soo koobo intaasi waa arrintii ku saabsaneed maaragtay kalluumaysiga iyo intaan wasaaradda joogay iyo wixii nooga suuroobay fursadihii jiray iyo wixii kale oo la xiriiro oo ahaa maaragtay caqabadihii jiray. haddaan hadda intan ii raacsan waqtigayga aan wax yar inaga siiyo warbixin yar oo kooban oo ku saabsan dhaqaalaha waddanka. horta saad uga wada qarabtaan arrimaha ugu waaweyn oo guud ahaan dowlad wanaag waa muhiim weeyaan soo dhaqaalo u dhismo. hadduu musuq maasuq baahsan uu jiro way adag tahay dhaqaaluhu iyo maaragtay inuu xoogeysto. marka waxyaalaha loo baahan yahay oo muhiimka ah waxaa ka mid ah in ay jirto daahfur iyo xisaabtan waa muhiim weeyaan. waxaa muhiim ah in miisaaniyadda sanad kasta dowladdu markay samaynayso in dadka Soomaaliyeed laga qayb geliyo oo laga dhigo wax furan oo publica u furan oo shacabka u furan oo loo sheego sidii maaragtay miisaaniyadda loo yimi waxa lagu kharash gareynayo si dadku talo uga dhiibto. waxyaalaha kale oo muhiim ah in wax laga qabto musuqmaasuqa hay-adaha hadda waxaa jira dowladda ama xafiiska ra'iisul wasaaraha soo hoosgala oo loo baahan yahay inay madax bannaanaadaan oo dowladda laga saaro si uu u yimaado xisaabtan dhab ah oo runtii loo baahan yahay. waxaa hay-adaha ka mid ah xisaabiyaha guud, waxaa ka mid ah hantidhowrka guud, waxaa kaloo dhowaan la sameeyey inaad ka warqabtaan in kale ma aqaan guddi la yidhaaho la dagaalanka musuqmaasuqa ama commission, anti-corruption commission la yidhaaho. taana waa la saxeexay, waa sharci weeyaan, hadda way jirtaa. guddigaana in la xoojiyo iyo xubnaha ku jira. waxa kale oo jiro waddankeena uuna lahayn sida wadamo badan ay leeyihiin hay-ada madax bannaan oo dakhliga waddanka soo ururiya
sida wadamo badan ay ka jirta Rwanda Revenue Authority ama Kenya Revenue Authority. Soomaaliya hadda siday u samaysan tahay wasaaradda maaliyadda gudaheeda wax yar oo kamid ah baa dakhliga soo ururisa. Marka waxaa loo baahay hay'ad madax bannaan oo cashuuraha ururin karta oo markaana waxyaalaha musuqmaasuqa weyn oo Soomaaliya aad ugu baahsan oo kamid tahay ra'iisul wasaarayaashu waxa la yiraahdaa cashuur dhaaf bay bixiyaan dad badan oo ganacsato oo bay waxay siiyaan maaragtay waraaq intee qoraamalay cashuur aan laga qaadin. Dadka waxa u badan dad xildhibaano oo baarlamaanka ku jira oo ganacsi ku jira oo haddii ay cashuur dhaafka la siin waayo oranaya dawladda mooshin baan keenanaa. Marka arrimahaasina waa arrimo kale oo waddankeena ragaadiyay. Arrinta ugu dambaysa waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in casri laga dhigo ama waxa la yiraahdo digital laga dhigo oo automated laga dhigo maaragtay waddanka oo dhan la isku xiri karo oo si inta cashuurta iyo bixinteeda mobile banking baa Soomaaliya qof kasta oo dhan laga sameyn karo. Marka waa fududaan doonta lacag badan oo xafiisyo loo tagi lahaa oo meel fadhiya laaluushi wax ka qaadan lahaa haddii waxaan oo dhan laga dhigo maaragtay automation lagu sameeyo musuqmaasuq waa yaraanaya lacagta badan oo lumusana waa yaraanaysaa. Taasi waa midda. Haddaan usoo gudbo arrintii kale oo dhaqaalihii waddanka saddex qaybood oo ugu waaweyn baa waddanka dhaqaalihiisa halbowlo waa mid waa waxa la isku yidhaha afka Ingiriisiga productive sectors ama qaybaha dhaqaale ee wax soo saarku ka soo baxo waana saddex qaybood oo waaweyn. Mid waa kalluumaysiga oo aan sheegay in hadda wax weyn oo sidaas iyadoo maal la gashado mooyaane inay ka jirin. Ta labaad waa arrinta ku saabsan beeraha oo iyaduna muhiim ah. Saad uga wada qabtaan waddankeena meelaha ugu waaweyn oo beeraha ku wanaagsan oo labada webi Jubba iyo Shabeelle maraan waa meelaha nimankan xag jirka ay u badan yihiin. Marka wax soo saarkoodu aad buu isaga maaragtay liitaa. Inkastoo sanadkii barkii ugu dambeeyay meelo badan oo Shabeellada hoose iyo Shabeellada dhexe labadaba wax soo saar badan iyo mooskii iyo sisintii iyo liintii iyo waxyaalo badan ba hadda la yara dhoofiya oo ah muddo kor inuu soo kacso. Laakiin meeshii la rabay inaan gaarno weli mayna gaadhin. qaybta kale oo muhiim oo wax soo saarka dhaqaalaha waa xoolaha. Soomaaliya waa waddan caan ku ah maaragtay lafdhabarna dhaqaalaheedu u yahay waa xoolo dhaqataan hadda uu ku badbaaday waa xoolaha aan u dhoofino khaasatan bariga dhexe aan u dhoofino. Xoolahaas sida lagu qiyaasay weelaa 5 milyan oo neef oo xoolaha baa loo diraa sanadkii markay ugu badneed oo labadan waddan oo Sacuudiga iyo waddanka Imaaraadka la yiraahdo oo runtii ah kuwa maaragtay xoolaha naga qaata. Xoolahaasi runtii haddaad qiimahooda eegtid neefkoo dhan oo sidiisii baan dhoofinaa inagu. Marka macnaheedu waxa weeyaan markay iyagoo qoladii laga gaday markay qalaan ama maaragtay qaybihii kala duwanaa oo neefka iyo hilibkiisii waxaa dhici karaysa qiimahan ku karnay inuu boqolkiiba 5 ama 6 ama 7 uu noqonayo boqolkiiba 90 iyo wax la jira value ama waxa la yiraahdo value chain-ka ama qiimihii xoog neefka iyo ka qaata. Marka waxyaalaha loo baahan yahay kalluumaysiga xoolaha iyo beeraha saddexdoodaba inagu value-gan qab ama waxa inaga soo galaa waa wax aad u hooseeya. Marka si ay wax weyn inooga soo galaan oo dhaqaaleenu wax weyn ugu yeesho waxa loo baahan yahay in aan markaa sameeyno haddii aan tusaale ka soo qaado kalluumaysiga waa aniga inii sheegaan yiri waxaan u baahanahay in warshadihii la sameeyo in la sameeyo qaxoojiyaashii in dooniyihii la keeno in meelihii lagu process gareeyo in markaana la dhoofiyo supermarketska dunida toos loogu diro. Markaana shatiga la bixiyaad maqashaan oo kalluunka waa waxa ugu raqiisan oo adigana qiimo fiicanna kuma soo galayo dadkii kalena waa qaadanayaan. Marka lacagta xoogeedu meeshii ka soo gashaa waa inaad adigu value-gii iyo waxaad maaragtay supermarketadii dunida aad toos u geenaysaa adigoo health inspection iyo waxa maraya. Haddaan tusaale inii siiyo ama siiyo jasiiradaha la yiraahdo Maldives Island oo Indian Ocean-ka ku yaalo inoo dhow waa meelaha runtii jasiirado yaryar weeyaan laakiin 5 bilyan oo dollar baa sanadkii kalluumaysi ka soo gala. Waddanka la yiraahdo Thailand oo isaguna aan bad weyn lahayn laakiin warshado badan iyo kalluunka maaragtay Indian Ocean-ka wadamada ku yaala ka soo gata. Sanadkii waxa ka soo gala 300 oo bilyan oo dollar baa ka soo gala. Soomaaliya oo badda inta la eeg leh oo maaragtay natural maaragtay wixii supply-gii oo dhan u yaala meeshii kalluunkii kala nooc aha
waxaad garan kartaa haddii la dhiso meelihii maalgashiga loo baahnaa inta ay wax ka badan beeraha sidaasi la eg waxa loo baahan yahay iyakana in warshadihii la sameeyo waxaan dhoofinaa cuntadii oo sidoodii oo waxa ceydina ama rool yidhaaho oo mooskii ama lilin siintii ama cambo dhan bariiskii haddii waxaas oo dhan wax la soo saaro warshadihii baa loo baahan yahay maaragtay agri business oo la process gareyn lahaa waxay dowladdu sameeyaan waxa la yidhaha special economic zone oo markaa meelo badan oo maaragtay shirkado badan oo dunida ay maalgashadaan iyo soomaaliyo badan ama waxa la yidhaaho joint venture ay wada galaan markaana sidaasi leeg meeshan maxaan ku idhahaa beeraha inaga soo geli lahayn wixii ka soo baxa 5% ama 10 9% baa inaga soo geli kara markaana waxa billion 2-3 billion soo geli kara xoolaha sidaasi leeg haddii kawaano lagu qaliyo ay joogaan oo cuntada halkaa warshado laga sameeyo oo supermarketska dunida loo dhoofiyo iyadoo la isticmaalayo maaragtay health certificationka taa lafteedana 2 bilyan ama 3 bay gaadhaysaa marka haddaad saddexdaas sector oo keliya aad eegtid waxay naga soo geli karaa ilaa 9 bilyan iyo wax ka badan waana lacag ciida ka badan oo Soomaaliya saboolnimada ka saaraysa waxbana kama aan taaban batroolkii badda ku jiray iyo macdantii waddanka ku jirtay sidaad ka warqabtaan waddankeena dhawaan waxa laga helay batrool fara badan baa laga helay oo khaasatan badda ah iyo gas waxa la yidhi 206 block baa laga helay batrool ku jiraan bloggiina waa aad buu weyn oo ilaa 10,000 square kilometers oo kale laga yaabaa inuu noqdo marka blogyadaas qaar ka mida baa waxa lagu qiyaasay in batrool ciida ka badan iyo gas oo xitaa 200 bilyan ama trillion gaadhi kara marka kaasina waa khayraadka kale oo waddankeena runtii wax badan ka qaban kara dhaqaalihiisa iyo maalgashi iyo waxyaalaha ugu waaweyn oo dhaqaale lafdhabarta u ah oo halbowlaha u ah waa waxa la yidhaaho human capital iyo dadkii iyo cilmi weeyaan dunidan iyo casrigan aan ku jirnaa iyo qarnigan aan ku jirnaa waa qarnigii cilmiga weeyaan oo wax soo saar ah wadamo aanan khayraad lahayn oo ka mid ah maxaan ku dhahaa Taiwan Singapore maxaan ku dhahaa South Korea Japan waxay isticmaalaan waa cilmiga weeyaan iyo maskaxdooda ay isticmaalaan waddankeena wuxuu u baahan yahay maalgashi xoog leh in la geliyo oo dadka Soomaaliyeed oo hadda sidii dagaalkii burburka Sokoyo inoogu dhacay ilaa 50% ama maxaan ku dhahaa 60 populationkeena caruurteena wax ma barato waayo ma haystaan dhaqaale iyo maxaan ku dhahaa hooy iyo wax maaragtay marka khayraadka batroolka iyo waxaas oo dhan waa waxyaalaha waddanka wax loogu qaban karo oo runtii faqriga looga saari karo waxa kale oo ugu dambeyntii kusoo gabagabeynaya waddanka Soomaalidu ilaahay mahadii ka sokow xeebaha iyo kalluumaysiga xeebaha dhaadheer dalxiis baa laga sameyn karaa iyo hoteelaha laga sameyn karaa afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa blue economy baa lagu yiraahdaa waa dhaqaalaha maaragtay badda iyo dalxiiska isku xidhan ka laftiisuna waa wax badan oo inoo furan dadka Soomaaliyeed waa dad ilaahay haybad u siiyay ganacsiga ama entrepreneurship waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo South uga warqabtaan Kenya Tanzania East Africa oo dhan West Africa South kumayaal Soomaali oo ganacsiyaal waaweyn iyo shidaal iyo transport iyo kula baa jira marka waxa weeyaan hadii runtii dhaqaalaha waddanka runtii la furo dadka Soomaaliyeedna fursad iyo dawlad wanaagsan oo nidaam wanaagsan u dhisaysa wax badan baa waddanka laga qaban karaa marka intaas aan kusoo gabagabeynaya oo mahadsantahay mahadsanid mudane wasiir aad mahadsan tahay wasiirku waxyaabo badan buu inoo tilmaamay meelo badan buu inoo sheegay oo waxyaabaha ay muhiim tahay dadka amba xilka soo qabtay amba ay maanta hayaba xilka inay dadka hor yimaadaan waxyaabo badan oo la isweydiinayo caamadu isweydiinayso oo aynaan ka warhayn bulshada ay u keenaan caqabadaha hortaagan ay u keenaan siiba dadka xilka ka tegay marka si dee laab furan u hadli kara maxay ahaydey dee waddankana rajo kale ma xil u tartamaya amba wax kale u tartamaya doctorku wuxuu inoo sheegay dee caqabad buu ka soo hadlay dib buu ka soo hadlay mid daakhiliya mid dibadeed buu ka soo hadlay waa lecture dheer inaan ku noqdo ma rabo waxaynu toos u geli doonaa qaybtii su'aalaha oo aynu su'aalaha geli doono qofka su'aasha doonaya 2 minutes buu haystaa 2 minutes ka warkaa waa inaanu comment badan aanu ku gelin min fadlimka inagoo waqtiga ilaalina oo inagu kooban iyo dadka oo badan marka
qacanta ayaa taagaysaa qofka rays yohan halkay ku qoran tahay ayaa taagaysaa qacanta saan qofka u arko aan uga qaado muudka. cabdinuur baan kusoo dhaweynayaa. cabdinuurow qacanta iska qaad, muudka iska qaad. marka waxaad sheegaysaan waxa fiican inaad backgroundkiinana sheegtaan iyo waxaad qabataan, su-aashan aad toos bilowdaan. cabdinuur adiga hayste microfonka. wali maqla samax aad iyo aad u mahadsantahay sax macaane. wasiirka waxaan weydiin lahaa magacayga markood waa cabdinuur maxamed cabdinaasir, waxaan arday dhigta jaamacadda ummadda, gaar ahaan waxaan ka bartay marine science. waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo iyamahan dambe waxaa jira in badaha Soomaaliya yani laga bixiyay shatiyo sida uu sheegay wasiirku oo ugu horeysa waddankan la yiraahdo Chinaha, oo la yiraahdo maanta adduunka inuu yahay yani waddanka ugu badan ee la sheegay in Soomaaliya ka lumaystaan kalluumaysi sharci darrana ay waddanka ku hayaan. wasiirku wuxuu sheegay in shati la siiyay marka xilliyada marka xataa xeebaha lagu arkay waxyaabo badan xildhibaanada Soomaaliya ka doodeen badii iyo jamaladii iyo jajabaya coraliski iyo banaanka imaanaya. marka wasiirka waxaan dadka qaarkiisna ay ku sheegeen inay ka dambeeyaan kalluumaysi sharci darrada badda ka jira, kuwaas oo ugu horeeyaan dowladdan la dhaho China oo baddaha qarxiya oo jabalada hoostooda ka raadiya bahashan leedahay argoostada. marka wasiirka waxaan weydiin lahaa dhaqaale intee la-eg ayaa naga soo gelahaya kalluumaysigaas, mase jirtaa caqabado waaweyn oo iyadana nooga imaan kara dhankaas kalluumaysiga? aad baad mahadsantahay walaal cabdinuur. waxaan ku xigsiinayaa sheekh qufaan marka koobaad siinayaa nawaal axmed. kusoo dhawaan nawaaley, iska qaad muudka. walaal waa mahadsan tahay. waxaan weydiin lahaa wasiirka su-aashan oo ah korontada qaaliga ah ee waddanka ka jirta sideebay ula xiriirtaa in suuqa laga iibiyo ama lagu iibiyo ganacsi lagu sameeyo kalluumaysiga? waa mahadsantihiin. nawaali haddaad backgroundkaaga noo yar sheegi kartid in yar. walaal aniga magacaygu waa nawaal axmed, garowe ayaan joogaa. waxaana ahay qof baratay bachelor in education, history, juqraafiya iyo community development. aad baad mahadsantahay walaal. khaalid cumar, iska qaad biliis muudka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وخالد waxaan bartaa kulliyadda marine science. waan salaamayaa wasiirka iyo adigaba iyo asxaabta kale halkan igula jirta. waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama waddanka uu burbur iyo waxyaalo badan uu soo galay, marka waxaa weydiin lahaa wasiirka wasaaraddu ma leedahay maaragtay shaqaalaha maaragtay meesha ka shaqeeya mostly waxay u badan yihiin wasaaradda kalluumaysiga dad maaragtay aanan haysan maaragtay marine science maaragtay ama batch ha noqoto ama noocay doonto ha ahaatee dad bad soo bartay. marka xafiisyada dadka ka wada shaqeeya mostly waxay u badan yihiin dad maaragtay meelo kale wax ka soo bartay ama faculty kale soo bartay. marka su-aashaas weydiin lahaa wasiirka inuu iga jawaabo haddii aan fikirkay uu qaldan yahay, haddii kale taaba weydiin lahaa. assalaamu calaykum. aad baad mahadsantahay walaal khaalid. حسن أحمد بليز مود كسكقان. حسن أحمد علي. السلام عليكم. مقعي وحسن أحمد علي، أربي كترستان جامعة سيتي برتو كلية مارين ساينس فيشري. سعادة الوزير وماسنتي waxaan ku weydiin lahay contractiga laga galaa dhacday shirkada oo ay gaaniga oo qaadanaya kalluunka. marka contractiga marka la galaayo oo xilligaas wasiirka aad ka ahayd ma jirtay in
sharci qoraya ama qodobo sheegaya kalluunka noocyada ay qaadan karaan iyo cadadka ama tanka ay qaadanayaan mise waxaa loo fasaxay inta halkaas sanaa micnaha inay waxay doonaan ka qaataan ayadoo oo time iyo wax loo egin iyo noocyada kalluunka ay qaadanayaan waa maxay qofkii ugu dambeeyey 5 qof oo ugu horeeya Qadir Cawiil iska qaad bilis nuudka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا مدرسة وسيرك. كريان والسلام يا. كومنتي أنا ربينا كدر سياسة الله مدانا سواشة محمدين لا على وسيرك. يوها في عن إن رنت سوشنا يعني ضلنتها سوماليات مش الدونا بتشو يعني إن حقيقة ضبط الله تبتح حويان وحدو في عن gaar ahaan fiilka laga hadlayaanba nooc yahay soona ardayda imka su'aasha weydiinaysaa wasiirkoo kale ee bartaa jaamacadaha kale yani warbixin la soo saaray sanadkan bishii lixaad waxa sheegaysay 112 markab oo Iiraan leedahay calanka Iiraan ka taagan yahay inay muddo sanada ay ka kulmaysanayeen Soomaaliya yani wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedadaba يعني أود لهين إنه أوان كران ما أنت محيط باشي مراكيب تشوجا بدو أود مرة ما تينو كذا مرة يعني بسعرد كروميسو زي ما تيجي نقول هذي كرتا إنه برضه نقول إن نترى هذا محل هذا ما يقولون بلو بهاي هاي كلهم بلو بهاي هاي حيوان ناعس مرة يعني بسعرد دي أود دي بقى هو حادث جو كومبا يعني إنه وحوجتها بقى محيط وحادث فض مرة يعني إن حقيقة الله الشيء مراكيب بدن إني ككلهم يستطيعون محيط بدن كيني wasaaraduna aanay awood u lahayn dawladuna aanay awood u lahayn dhalinyarada maxay soo kacaysan loo sheego la dhahdo wadankiina maxay heeday baashi taas ka jira taas ka jirta sanadada soo socda macala rajo jirta moogta macala rajo la muujinaya ma jirto yani imsa sanad kadib ayaa warshad kalluun laga furi karaa Soomaaliya imsa sanad kadib ayaa xaalad kalluunka Soomaaliya loo dhoofin karaa baashi imsa sanad kadib marka wasiirku waxaan u baahanahay reality-ga yani xaqiiqada dhabta ah dhalinyarada loo sheego maxay heedayeen waxaan meesha ka jirayo wasaaraddan xaalada kalluumaysigu inay tahay wasaarad aan awood lahayn xaalada ay wax ku qabato imada ku shaqeyso marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo lecture sidan oo kale oo loo qabtay xaalada dhalinyarada oo uu ka hadlayay xaalada Dr. Saad Qiinow xaalada wuxuu sheegay maruu tagay Ethiopia oo la socday xaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Abdullahi Algaas ay joogeen hodeel ku yaala maxay heeday Ethiopia in loo keenay xaalada kalluunka dalbadeen wuxuu waxaan weydiiyay ninkii waiterka ahaa kalluunka maxay heedeen noo keenay kalluunka xagga laga keenay Dr. Saad Qiinow wuxuu sheegay kalluunka ay ku cunayeen Ethiopia gaar ahaan Addis in laga keenay Norway yani waxa ku tusaysaa madaxdeena Soomaalida marka eegto gaar ahaan wasaaradda maxay heedeen xaalada wasaaradda kalluumaysiga ee xukuumadda federaalka ee maamulka inay yihiin dad maxay heedeen baashi xaalada ku fashilmay marka la eego fiilka xaalada kalluumaysiga iyo fiilka marka la eego wax soo saarka inuu soo koobaya marka wasiirka waxaan ka rabnaa maxay heedeen uu maasan yarto bixin fiican buu siiyay oo bixin aad maxay heedeen inuu sheegay Thailand oo kale maxay heedeen mar la qabtay oo 16 milyan oo dollar 16 milyan oo dollar ee wasiirku sheegay yani waa lacag aad u badan moogtay yani xaraashka la sameeyay waxa badan baa jira moogtoo qarsoon waxyaabaha waxaan jecelahay in maxay heedeen wasiirku su'aasha adoo soo gelaya Qadaro commentiga malaynta way nagu filayeen hello Qadar comment buu haawan filaya saacada wasiir ku soo dhawow waa mahadsantahay walaal su-aashii ugu horreysay Cabdinuur baa weydiiyey oo jaamacadda ummadda maaragtay Marine Science ka dhigta su-aashiisuna haddaan fahmay waxay ahayd waxay ku saabsaneed shatiyadan la siiyey shirkadahan Chinese-ka ah oo qaar badan la leeyahay waxay u geysteen waxyeelo waaweyn bay u geysteen xeebaha Soomaaliya oo khaasatan maaragtay meelahan ay maaragtay badda u dhow oo cagaarka oo daaqo kalluunka ama lagu yidhaho mangroves lagu yidhaho afka Ingiriisida waa run weeyaan shirkadaha Chinese-ka iyo kuwo kaloo badan xeebeena ma lihin ciidamadan badda ama maaragtay navy ma lihin coast guard ma lihin marka maadaama ayna lahayn maaragtay ciidamadaas oo dhan waa adag tahay waxaan qaban karnaa
meelaha qaarkood waxaa jira dowladaha ka jira goboladaas baa u ogolaada oo lacag yar intay ka qaataan bay shati waxbay siiyaan oo maraakiibtaasi u ogolaadaan laakiin waa macluumaad u baahan aan loo hubiyo la baaro laakiin waa xaqiiqo in waxyeelo waaweyn badeena loo geysto dee waxa weeyaan runtii shirkadahan hadda Chinese-ka oo la siiyey shatiyada la siiyey wasaaradda kalluumaysiga oo federaalku siisay shirkadahaasi waa shirkada loogu talagalay inay ka kalluumaystaan aagga dhaqaalaha aagga dhaqaaluhu waxa weeyaan waa special economic zone waxa weeyaan xeebta marka laga soo bilaabo 24 mailka badda ama la yidhaahdo nautical mile 24 ilaa 200 oo mile oo badda ah intaas waxa weeyaan waa aagga dhaqaalaha kanina lahaa 1.2 milyan oo square kilometers weeyaan aagga dhaqaalaha ee maaragtay Soomaaliya ay tahay marka taasi waa taa maaragtay taasi waa midda marka waxa weeyaan maraakiibtaasi Chinese-ku in halka ka kalluumaystaan weeyaan marka in xeebaha yimaadaan maaha marka kuwa xeebaha imaanaya sida sharciga kalluumaysiga ee Soomaaliya u yaala badda xeebta ilaa 12 kilomitir oo 12 nautical mile oo xeebta ilaa 12 dowlad goboleedyada awood u leh inay shati bixiyaan dowladda federaalku shaqo kuma leh laakiin shatiyada waxa loogu talagalay inay siiyaan kalluumaysatada Soomaaliyeed iyo iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha kalluumaysatada Soomaaliyeed markab ajnabi inuu soo gala maaha xeebaha u dhow oo meelahaas lagu sameeyo oo bahaladaas shirkadaha Chinese-ka oo ay biro dheer intay geeyaan ay jiidaan maaragtay meelaha mangrove-ka ama daaqa badda oo u dhow xeebaha maaragtay badda marka waxa soo dhan inay yimaadaan ma sharci darro ku soo galaan marka taasi waa ta shirkadaha Chinese-kuna inay yimaadaan maaha dhulkaas sidoo sharcigu noogu yaal waa ka gudbayaa taa waxaan u gudbayaa Nawaal Axmed su'aashii weydiisay waxay la xiriirtay arrimahan la xiriira korontada oo ay tiri korontadu qaali bay aad u tahay Soomaaliya marka korontada qaaliga ah saameynta ay u leedahay waa maxay kalluumaysiga Soomaaliya iyo wax soo saarkeeda haddaan su'aasheeda fahmay xeebaha waxa runtii loo baahan yahay inay qaboojiyaal ku yaalaan si wax cadad badan oo kalluuna aad maaragtay mar qura u maaragtay meel qura u maaragtay store gareyn kartid markaana de waxa loo baahan yahay haddaad qalab maaragtay facilities ka sameynaysid waxa loo baahan yahay inaad koronto heshid marka hadda maba lihin baa dhowr meelood oo meesha la yiraahdo Kismaayo iyo meelo yar yar oo kamid ah Puntland iyo xoogaa yar oo xeebta Jazeera oo xamar waxa ku yaala meelo yar yar oo lagu qaboojiyo korontada maaragtay lagu qaboojiyo kalluunka maaragtay qaboojiyaal ku yaalaan korontay u baahan yihiin marka korontada runtii loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano oo keenaysa waxa weeyaan oo jaban oo raqiis inoo imaanaysa waa cadceedda waxaan u baahannahay inaan cadceedda weyn aan leenahay runtii keenno qalabka maaragtay casriga ah ee maaragtay solarka la yiraahdo panels oo kale la yiraahdo in la keeno kuwaasaan u baahannahay iyo dabaysha weyn oo xeebaheena ka dhacdo oo iyaduna koronto keenta marka Nawaal haddaan su'aashaadii ka jawaabo korontada qaaliga wax weyn oo saameynaya hadda ma leh waayo wax soo saarkaaba iska yar xeebaha laakiin waxay korontada qaaliga haddaan arrimihii dhaqaalahan wax niiga sheegayaan inii sheego dad badan oo raba inay ganacsi galaan oo business inay galaan ay doonayaan waxa weyn haddii korontadu iyo qaali ku tahay iyo kharashkii ay bixin lahaayeen oo joogtada ah waa ku adkaanaysa inay ku guuleystaan oo ganacsigooda uu hirgalo korontaduna waxyaalaha ugu waaweyn oo ama reero badan oo Soomaaliyeed oo iska maaragtay tabartoodu yartay dhaqaalahan ama ha noqoto ganacsato waa arrin weyn oo dhibaato waddankeena ka haysa waana qorshe loo baahan yahay dawladdu inay runtii qorshe keento ama shirkado private ay garab siiso oo maaragtay si kale u taageerto oo markaa la helo maaragtay tartan la gala shirkadahan 3 iyo 4 baa waddanka oo dhan iska haysta oo monopoly oo kala marka arrintaas waa arrin muhiim ah weeyaan haddaan u gudbo Khadar Cumar isaga oo arday isaguna marine science ka barta waxa uu ii weydiiyey su'aal la xiriira dadka ka shaqeeya shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda oo aan ahayn dad aan runtii xirfadii iyo cilmigii wixii loogu talagalay maaragtay aan soo baran marka su'aashii weydiinay ma dhabbaa buu igu yidhi su'aashiisu ma noo caddeyn kartaa marka Khalid waxaan kuu sheegayaa Khalid Cumar waxaan kuu sheegayaa inay arrintaasi dhab tahay
dad fara badan oo wasaaradda ka shaqeeya cilmigii iyo khibraddii iyo xirfaddii male saad ka warqabtaan Soomaaliya waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo aad u baabiyo ragaadiyo la yidhaahdo 4.5 ama 4.5 oo ah aan la eegin qofku muxuu yaqaanaa awood ma leeyahay karti ma leeyahay waxa lagu keenaa arrimaha 4.5 ka lagu keenaa markaad adigu wasiirtay oo ama anigoo quramaha wasaaradihii dadkii kaloo wada joogo dhan wasaarad kasta dad ciida badan oo ka buuxo aadan waxba ku qaban karin baa jira aadan markaana dad kale keeni karin marka waxyaalaha ka mid tahay arrimaha siyaasadeed oo ina baabiye weeyaan marka waa xaqiiqo jirta weeyaan taas taa haddaan ka gudbo waan u gudbo xasan axmed cali isaguna waa ardaysaan u fahmay oo marine science ka barta arrimahaas marka wuxuu yidhi contractyaa jira maaragtay la siiyo buu yidhi shirkado wax contractya la yidhaahaa ma jiraan oo la siiyaa cid waxa keliya oo la bixiyo waa shati kalluumaysigun baa la bixiya marka waxaa laga yaabaa maybe inaad rabti inaad tidhaahid shatiyada la bixiyo shatiyada la bixiyana qaab loo maray leedahay waxa weeyaan maaragtay markabku qiyaastiisu intuu la egyahay intuu rabo inuu qabto baa lagu qiimeeyaa lacagta shatigaas badanaaba halkii shati qiimahoodu waxa ilaa $100,000 ilaa 130 inta u dhaxayso $1,000 weeyaan halkii shati oo kale marka lacagta waagii dhaweyd qolooyinkan Chinese-ka oo ilaa 30 sidaan u fahmay shati la siiyay shirkadahan Chinese-ka waxa ka soo galay dawladda lacag la yiri waa 100 waxaan u jeedaa waa 1 milyan iyo $1,200,000 baan u maleynaya lacagtaasi waa lacag macnale maaha waa adoo bilaash ku bixiyay kalluunkaagii oo dhan iyakuna waxay ka samayn karaan 40 milyan bay ka samayn karaan ama 100 milyan marka waxa weeyaan waa nasiib darro in sida loo qiimeeyay iyo arrimahaas maaragtay qiimaha jaban ay ku qaataan shirkadaha Chinese kuna sidii qof horena su'aal maaragtay inoo weydiiyey oo ahayd ma lihin runtii ciidan bad iyo coast guard iyo awood kale oo aan badaha intaan ku tagno maraakiibta eegno wixii joogay marka kuwa shatiyaashta inaga qaato Chinese-ka la siiyey haddii 30 la siiyey sidaan ku ogaanayna in 100 iyo 200 oo kale oo Chinese jooga oo maaragtay iyakuna ay maaragtay kalluumaysanayaan waxyaalaha ay sameeyaan oo la ii sheegay aniga waxaa ka mid ah shatiyada kuwa la siiyo markabka oo calaamad iyo number iyo waxaalo oo dhan midkaasi marka uu ka buuxsado oo badda ka tago sida waa waxa la ii sheegay waxaan hayo oo cad maaha laakiin dad badan ay igu yidhaaheen mid kale oo sidii taargadii iyo nambaradii wax la mida wata baa meeshii soo geliya kiina markuu buuxsado tago meel kale caadiya marka waxaa laga yaabaa isla hal markab inaad u malayn siduu meesha taagan waxaa dhici karaysaa mid nambaradoodii haysta ama kuwa haysta inay soo noqnoqonayaan arrimahaasi waa arrimaha ina ragaadiyey oo loo baahan yahay inaan maaragtay wax ka qabanno qodob kale aan ka odhan doona arrimaha ku saabsan sharci darrada iyo awood darrida dowladda Soomaaliyeed haddaan usoo qofkii shanaad oo su-aashii weydiiyey khadar cawil buu ahaa oo ku dheeraaday oo ah maaragtay waa in runta lasu sheegaa waddankan dowladda kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo dowladda Soomaaliya haddayna wax u qaban karin ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay ayna awood lahayn ha u sheegeen oo dhallinyarada ha u sheegeen dee waxaan u maleynayaa khadarow qof kasta waa ogyahay waana loo sheegaa maalin kasta aad ka akhrisataan joornaalada iyo newska iyo maxaan ku dhahaa warbaahinta Soomaaliya awood ma leh waa xaqiiqo xoolaheena waa la dhacaa kalluunkeena waa la dhacaa dunidoo dhan waa ogtahay dowladdeenu ma leh awood ay wax kaga qabato saan hore iniigu sheegay wixii ugu dhowaan anigu markaan wasiirka ahaa waxaan qabtay maraakiibtaas maaragtay Thailand laga leeyahay sida aan u qabtayna waxaan isticmaalay sharcigii aan inaku saxiro international convention la yidhaaho oo UN iyo FAO keentay oo wadamadii saxeexay sharcigaas oo dhan ay leeyihiin wadankii kalluunkiisa sharci darro looga soo dhaco oo wadamadaas saxeexay mid ka mid ah kalluunkiisa la geeyo oo dad kale maraakiib kale geeyaan inay ka gadaan waxay u awood u siinayaan in loo sharciga wadankaas oo kale ay noo qaban karaan ay noo xidhi karaan haddii inakoo ka mid ah wadankii saxeexay heshiiskaas aan ku nidhaahno noo qabto marka markabkii aan qaban jiray oo Thailand aan ku xidhi jirnay oo 16 milyan oo ganaaxa laga keenay waxa weeyaan dariiqaasaan marnay qodobka ugu dambeeya maadaama ay soo noqotay arrintan sharci darrada kalluumaysiga anigu intaan wasiirka ahaa waxaan kala hadlay oo maaragtay dowladda Turkiga aan u tagay aan ka wada hadlay madaxweynaha Erdogan wuxuu naga aqbalay in ciidamada badda ee wadanka Turkigu 4 sanadood ay noo ilaalin karto navigooda ama ciidamadooda baddu
ay Soomaaliya noo ilaalin karto inta aan ka dhisano ciidanka badda ee Soomaaliya markaana 4 sanadoodna la tababaro oo maraakiibna ka gadano kuwa dagaalka ah si marka 4 sano ka bacdi inaku iskeen aan u awoodno inaan maaragtay wax kaga qabanno maraakiibta sharci darrada kalluumaysata arinta iyo markaan taladaas soo jeediyay aan u keenay xukuumadda ra'iisul wasaaraha u keenay waa diiday dawladdu oo madaxweyne ra'iisul wasaaruhu waa diiday waxa uu jawaabtiisii ahayd dawladda Mareykanka cadhoonaysa oo haddii ciidamo Turkiya oo kala badda iyada ay ku arkaan iyaga laga yaabo inay noo xanaaqaan ama noo cadhoodaan waxaasina wax aqliga geli kara maaha dawladda Mareykanku waxay leedahay maraakiib badan oo navy bay leedahay oo maalin kasta xeebaheena iyo baddeena mara hadday rabto inay gacan naga siiso sharci darrada kalluumaysiga ka jira waddanka dhan maalin qor u joogsan lahaa wadamada European Union ciidamo badda oo xoog la mara waxay raadsanayaan burcadbadeed aan jirin oo aan meesha jirin bay raadinayaan bay ku leeyahay waraadinana marka tiraahid gacan naga siiya oo noo qabto maraakiibtana sidaan hore inuu sheegay qaraarkii ee qaramada midoobay oo nala dagaalantay Faransiiska European Union oo kamid ah Faransiiska iyo Spain kuwa kalluunkeena dhaca marka xaqiiqada Soomaaliya ka jirta taa weeyaan de marka idinku waxaad tihiin muwaadiniin Soomaaliyeed baa tihiin ka qayb gala siyaasadda Soomaalidu xildhibaanan noqdo oo siyaasadda gala oo markaa isku day inaad bedeli kartaan haddaad filasan xamar dadka jooga inay wax inii qabanayaan waxa ka qabanayaan u maleyn maayo muddo badan baa la sugi doonaa waa ka baxay aad baad mahadsan tahay doctore waxaan malaynayaa su-aal baa aad u soo noqnoqotay su-aasha shatiyada amba heshiisyada dhinacyada qaar Soomaaliya looga yaqaano su-aal kale ayaa iyada laftigeedu xaggan inoo taalla Omar bayna soo weydiiyey wuxuu yidhi bacda salaan sidee ku dhacday in shirkad Chinese oo xaalufisay xeebaha West Africa 30 markab la siiyo ruqsado kalluumaysi muddo 1 sano ah iyagoon laga qaadin 1 milyan iyadoo laga qaaday 1 milyan oo USD oo ah mid aad u yar isla markaana aan la baarin qalabka ay isticmaalayaan ana saarin baxaaris Soomaaliya sida uu qabo sharciga kalluumaysiga dalka ee dhigaya in 15% crew amba dadka saaran doonyuhu ay noqdaan Soomaali su'aal labaad oo qoraal ah su'aal labaad oo qoraal ah ayaa waxay oranaysaa magacaygu waa Najiib waxaan ahay arday kamid ah ardayda Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan barto kalluumaysiga su'aashaan rabo waxa weeye sidee loo xakameyn karaa dadka ku soo xadgudba kalluumaysiga labadaas su'aalood su'aalihii horey daba socdaan haddaad raacin kartid doctor ku soo dhow way isku yidhowyiin shatigaasi aad u soo noqonaya especially Chinese-ka waa runta aad u soo noqonayaan waana wax aad looga dhiidhiyo runtii shirkadaha Chinese-ka oo lacag la'aan oo kale bilaash waddankeennii kalluunkeennii ku dhamaysto xaalufinaya Umar waxa weeyaan waa runtiisa aad iyo aad buu xogagaal u yahay waa runtii Afrikada Maghrib ama galbeed oo West Africa wadamada ku yaala kalluun badoodii waa hore la xaalufi intaan anigu wasiirka dhowr bar baan tagay bangiga dunida ee Washington oo maraan shirar badan ka qayb galanay oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha iyo waxaas oo dhan saan hore u sheegay waanigii yiri anigu guddiga golaha wasiirada ee guddiga dhaqaalaha baan maaragtay xogeen u ahaa oo jaga maaragtay runtii anigu oo kale leadershipkeeda hayay marka ninka qaybta Afrika oo vice president oo maaragtay madaxda waa nin ka yimi waddanka la yiraahdo Senegal waa horena markuu joogay World Bank Soomaaliya ka ahaan jiray wakiilka jooga markaan ugu tagay Washington wuxuu igu yidhi wasiir waxaan rabaa inaan kuu sheego annaka baddayadii Chinese baa dhamaystay buu igu yidhi haddaadan waxaan kuu sheega aadan wax kale ka fahmin waana intaan weli shatiyadan la bixin be waxaan kaaga digaya Chinese-kaas haddii aad shati siinaysaan waa inaad leedihiin qaab aad ku maaragtay korjoogto ku samayn kartaan oo inspectorska si uu sheegay aad saari kartaan haddaad wax bixinaysaan cadad yar bixiya oo saad u control kartaa wax badan siinina marka wixii taladu sheeyo dhan cakiskeedii baan sameynay waxba mayna ka qabanin iminkana xaalufin xoog leh ka wadaan Soomaaliya waa xaqiiqo jirta ninkii odaga xaqiiqada la soo sheego xaqiiqo jirta weeyaan haddaan u soo gudbo Najiib oo ardaya oo raba doonaya inuu barto arrimaha cilmigan la xiriira ee kalluumaysiga iyo marine science waxaan aad iyo aad baan ugu dhiirigelin lahaa hadda dhowr jaamacadood baa hadda Soomaaliya ku yaala jaamacadda la yiraahdo
waxaan u malaynayaa in la yidhaaho city college baa la yidhaaho waxay ku taalla xamar waxay leedahay program heer sare af ingiriisi baa lagu dhigaa classkii ugu horreeyey waxay maaragtay qalin jabiyeen intaan anigu wasiirka anaaba ka hadlay xafladdii ay ku qalin jabiyeen waa barnaamij heer sare oo aad u wanaagsan markaana jaamacadda maaragtay waddankuna waxay leedahay iyaduna kuliyadda waddanku kalluumaysigu maaragtay iyaduna marine science bay leedahay marka aayaha iyo futureka soomaaliya waa halkaa weeyaan waxaa la baran karaa ilaa 20 cilmiyo kala duwan oo nooc kasta oo navigation waxa la yidhaaho hirarka badda sida loo eego in kalluunku uu maaragtay uu maaragtay muddo badan usii joogo marka iga raali ahaada marka arrimahaas oo dhan waxa weeyaan waa waxa loo baahan yahay waana kugu dhiirin gelinaya su-aasha adigeed maxaa laga qaban karaa kalluunka sharci darrada waxaa laga qaban karaa waa fududahay waxaan u baahannahay dowladdeenu in ay wadamada doonaya inay gacanina siiyaan haddayna awood lahayn inay yidhaahaan ciidamadiina badda ha yimaadeen sida turkiga oo kale oo waddanaan saaxiibna oo gacan inaga siinaya waddanaan saaxiibnahay baa diyaara waa maxay sababta aad waddankan haddii uu lahaa dowladda maraykanka iyo yurub ma rabaan inay ku ilaaliyaan baddaadii ma rabaan kalluunkaagii xoolahaagii baa la dhacaya xoolahoodii maaha marka hadday ku yidhaahaan waan ka cadhoonaya cadhadeedu maxay macna ku fadhida anigu waxaan leeyahay mas-uuliyad baa saran 15 milyan oo qof oo gaajo oo cudur iyo qaxootiya baa waddanka iyaga ii jooga maada wax iga qabanaya oo ii siinaya marka iyaga wax ii siinaya marka waa inaad barataa damiir inaad yeelato waxyaalo waxaa loo baahan yahay dowladdu xitaa dadka kaloo kaasoo horjeeda wuu ku ixtiraamaya markaad runta u sheegtid aad tidhaahid anigu waxaas dantee ummaddeeda wax u qabanaya marka arrinta intaasaan uga baxay waad mahadsantahay wasiir waxaan u gelaynaa su-aalaha dadka suun ku jira waxaa kusoo dhawaanaya xasan SN28 xasan muudka iska qaad habeen wanaagsan wasiirka guddiga hibad iyo asxaabta kale ee caawa meeshaan fadhisa waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa batroolka badda laga soo saarayo yacni waxaa ognahay dhulkan beriga markii shidaal amba batrool laga soo saarayo in nabaad guur oo ku dhacayo kalluumaysiga badda ku jira nabaad guur intee leeg ayay ku keeni kartaa batroolkaas badda laga soo saarayo sidoo kale su-aal labaada waxaa rabaa inaan weydiiyo waxaa la sheegaa in adduunka ay jiraan 72 nooc oo kalluun ah soomaaliya waxaa laga helaa 66 nooc oo kalluun ah sidee macnaha loo waafajin karaa research ma laga sameeyey ama baxthi ma laga sameeyey 66daas nooc ee badda ku jira inay nabadgelyo ay helayaan haddii batroolkaas lasoo saaro anasan uga soconna cabdiraxmaan ismaaciil kusoo dhawow cabdiraxmaan is bay u muuqataa muudka iska qaad assalaamu calaykum marka hore magacaygu waa cabdiraxmaan cabdisaaq ismaaciil oo dhigta jaamacadda city muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan ka qaybgalayaasha haddaan hore u galo su-aasheeda waxaan wasiirka weydiin lahaa sidee baan uga faa'iidaysananaa karnaa marinada ay maraan maraakiibta soomaalida sida marinka baabilmandab oo kale haddii ay dowlad noo dhalato waana mahadsanteedii waxaan kusoo dhaweynaya axmed cidde please iska qaad muudka axmed cidde assalaamu calaykum wali maqlaa ha waa lagu maqlaa magacaygu waa axmed cabdirasaaq ciidey jooga waddanka bangladesh dhigta kuliyadda environmental science and disaster management wasiirka waa u mahadcelinayaa iyo xiriiryaha barnaamijka engineer carab wasiirka waxaa weydiinayaa su-aasha ah wasiir saa wada ogsoonnahay mar walba oo roob da-aan biyo badan baa waxay sameeyaan run off oo waxay galaan xeebaheena biyahaas marka laba dhinac lagu eego dhinaca kuwaad horta waa anaga wax naga tahay khasaaro oo biyaha naga baxay laakiin dhinaca kale marka loo eego xeebta waxay u geysanaysaa muxuu ahaa dhibaato oo dhammaan waddankeenu maadaama uusan siwajiis dhammaan qashinkii meel walba oo laaba waxay ku darsamayaan muxuu ahaa xeebtii haddii noqoto caagadii haddii noqoto wax walba kadib taasoo u geysanaysa dhibaato kalluunkii meesha ku jiray marka taa dhibaatada ka daran waxay tahay
oil spillska ama maraakiibta ka kulmaysata waddanka dhibaatada ay gaarsiiso waddankeena maadaama markaad joogtay kursiga ma ka warqabtay waxaan u malaynayaa inaysan dhici karin maadaama aan shatigiiba aan laga warqabi karin inuu effective u geysanayo markabkaas waxaan u malaynayaa in isla muxuu ahaa ay adagtahay in laga warqabo marka ustaad ama doctor ama wasiir ma ka warqabtay in muxuu ahaa waddanka ay gaarsiin jireen dhibaato noocaasa maadaama aad la kulantay muxuu ahaa maraakiib tiyo khaldan wata ma la kulantay markab wax noocaasa ku daadinaya muxuu ahaa xeebtii maadaama xeebta ay ku adag tahay in qashinkaas gaaray uu kalluunku dhimanayo see noqonaysaa muxuu ahaa sun lagu shubay marka ereygii ahaa hadaaye turkiga waxay dhaheen waxaan sameynaynaa muxuu ahaa dad meesha ilaaliya waa laga caroonayaa marka usha tiri wasaarihii adigu maadaama aad ogaatay inaysan dhici karin in waddankii uusan wasaarihi xataa ka socon karin naftaada ma ku canaanatinaa muxuu ahaa samaysa resignation aa waddanka adigu iska cashisid sida muxuu ahaa madax badan waddankooda markay kala kulmaan waxyaaba noocaasa ay ka laabtaan muxuu ahaa shaqadii ayaan sababtaa ay diidayaan waddankooda inta ka khasaaraysaa marka waa mahadsantahay cide aad baad mahadsan tahay anaa hal su-aala ku yar dar lahaa wasiir waxaad jirtay intii muddadii u dhaxaysay 2014 ilaa 17kii soomaalidu waxaa ka jirtay mawjad ah dekedo oo berbero maalgashi boosaaso kismaayo ha lagu kala aragti duwanaado markii dambe hobyo oo la sameeyey dowladdu dhagax dhigtay garaacad ha lagu kala aragti duwanaado ciddii doontaa maalgeliso maxay ku soo kordhin karaan bulshada soomaaliyeed sitada ah dekedaha amba horumarka sameynaya amba tusaale ahaan oo kale wadooyinka loo bixinayo iminka garaacad oo kale maxaa fursadee uga dhalan kara meesha taas waa taa sidoo kale wasiir waxaad magacawday in training loo baahan yahay in dhalinyarta halka iminka inagula sugan qaar badan maanta ay noo sheegeen inay yihiin marine student inay yihiin adigu intii aad xilka haysay wasiir weli cid training moo dirtay ma ka qayb qaadatay in jaamacadaha la hirgeliyo waxaa jira arday badan oo meelo badan ku kala sugan su-aalihii qaybtii labaad intaasay noogu eegyihiin kusoo dhawow mudane wasiir stage is yours waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay haddaan ugu horreysiiye su-aashii xasan waxa uu su-aashiisii xasan ahayd wuxuu yidhi waa maxay saameynta ay u yeelan kartaa kalluunka ku jira badda saliidda ama oilka laga yaabo buu yidhi in maaragtay xeebaha laga qodayo ama wax saas oo kale waa maxay maaragtay waxa u yeelan karto runtii hadda wax inaku aan ognahay oo maraakiib saliid ku daadinayso baddeenna ama markab jabay ama wax saas oo kale oo kuwan tankariska la yidhaaho oo saliidda qaadaa ma jirto laakiin khatarta weyn oo ay oilku maaragtay wax badan saameyn u yeelan karto kalluumaysiga waad ka warqabtaan oo hadda dowladdu waxa ay wadaa qorsho ay rabto inay ku xaraashto xirmooyinkan maaragtay batroolka ee badda ku yaalla oo ay rabto inay shirkado ajnabiya siiyo si ay u qodaan oo riigag uga taagaan baddeenna arrintaasi waa arrin runtii warbixintaydii waktigeenna aad u cadidnaa oo maaragtay wakti fursad uma helin laakiin arrinta muhiimka oo waxa weeyaan ku saabsan batroolka waddankeennu diyaar uma aha waktigan hadda la joogo inuu bixiyo maxaanku dhahaa raash sameeyo xirmooyinka batroolka uu sameeyo waayo hay-adihii loo baahnaa oo ilaa 3-4 oo kale ah maba jiraanba marka adaan hay-adihiiba leen ta ugu horreysa waata la yidhaaho Somali Petroleum Authority ama awoodda maaragtay hay-adda awoodda ee batroolka waa hay-ad ugu talagalay waxa la yidhaho regulationka ama environmentka iyo waxaasoo dhan inay eegto hay-addaasi ma jirto hadda maalin dhoweed xukuumaddii siduu ra-iisul wasaaruhu isu casilay xukuumaddan kumeel gaadhka oo hadda la sheegaya inay ka jirto Soomaaliya waa waxay magacawday guddigii ama boardkii hay-adda Somali Petroleum Authority 3 sannadood iyo bar bay dowladdu awood u weyday inay dad xirfad la keeno dad hadda aan qualified ahayn oo dad qaar ka mid ah aan shaqaba ku leeyahay qualification hadda lagu qoray oo la rabaa in laga gaarsiiyo waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed sayna dan uga lahayn waddankan ayis uga lahayn marka taas waa mid waxa loo baahan yahay batrool inaad soo saartid oo gorgortan fiican gashid shirkadda batroolka ee waddanka Somali National Oil Company ma lihin wali sharcigeedii waa la gudbiyay baan u maleynayaa in la sameeyo horta waa in shirkadda la sameeyo
dunida waxa gorgortan galaa ma aha dowlad ma aha dowladdu siyaasad bay dejisaa ama policy waxa la yidhaha ay dejisaa waxa loo baahan yahay shirkad baa la maaragtay gorgortan la gasha gorgortan shirkadaha ajnabiga la galasaana waa inay haystaan looyaradii dadkii khibrada geologigii cilmigii financial analysis dhaqaalihii waxaasoo dhan dadkii suuqa yaqaanay marka waxaa loo baahan yahay hay-addaasoo dhisan oo dad xirfad leh haddayna ka maqayeyna dad kaloo ajnabi oo la qorto oo la keeno inay markaa hay-addaasi jirto iyadii ma jirto waxa kaloo loo baahan yahay iyadana oo muhiim ah in sharcigii maaragtay production sharing agreement la yidhaaho oo kale ama heshiis la siiyo shirkadaha ajnabiga ee batroolka soo saaraya dowladdeenu 30 sannadood bay rabtaa shirkadahan ajnabiga inay siiso wax 30 sannadood dunida bixiya waa hore ugu dambeysay waxa la siiyaa 15 sannadood oo marka dambena la rabo shirkadeenna qaranka aan leenaho saliidda ah inay kala wareegto marka kuwa dambe khibradii iyo cilmigii inay barato marka waxaasoo dhan marka dowladdeenu waxay rabtaa shirkad la yidhaaho Soma Oil oo nin ruusha iska leeyahay oo xoogeeda nin la yidhaho oligarchs nimankan waagii ruushka la boobaya khayraadkiisa la boobaya nimankii billionaireska ka noqday Soomaalidu ma ka warqabtaa Soma Oil Company xoogeeda nin ruusha oo oligarchs iska leh ma ka warqabtaan xukuumaddii horeysay oo Xasan Sheikh baa siisay marka waxa weeyaan nin kale oo isaguna Ingiriis oo ahaan jiray xisbiga la yidhaho Conservative Party-ga waddanka Ingiriiska oo Michael Howard la yidhaaho oo David Cameron ninkii la odhan jiray ka horreeyey kaasna qayb ka mida Soma Oil baa la siiyey qayb 2% oo 2% ana ninkii la odhan jiray Xasan Cali Khayre intuuna dowladda ku jirin 2% of Soma Oil buu leeyahay wejiga Soomaalida loo yeelay waayada shirkadda Soma Oil baa waxa ay sii qoratay shirkad la yidhaaho Spectrum oo Norway leedahay shirkadaasina waa shirkadda baaritaanka ku samayso 260 xirmaan inii sheegay ama blocks ay soo saartay marka waxaan ugu dheeraado arrintaa ugu noqday marka waxa weeyaan shirkaddaas Spectrum oo ah shirkad ajnabiya iyada weeyaan iyada la tala raba inay bahalada la yidhaaho xaraashka la bixinayo inay bixinayso marka shirkadaasi shirkadaha kale oo kale hoos ay kala heshiin karaan ama meelaha ay ka buuxaan blocks ay ka buuxaan bay u sheegi karaysaa Soomaalidu maxay ka warqabtaa marka anyway arrintaasi waa meelaha ugu waaweyn arrinta kale oo ugu weyn oo la xiriira saliidan waxa weeyaan waa arrinta ah dunida oo dhan dadkiina laga yaaba inaad maaragtay hadda maaragtay baranaya arrimahan maaragtay kalluumaysiga khayraadka iyo waxa la xiriira waxa la yidhaha cudur la yidhaaho resource scarce ama waxa weeyaan waddankii batrool hela waxay noqotaa marka dambe wax karaahiya oo dadkooda ama isku dagaalamaan ama marka dambe musuqa ugu weyn oo dunida ka dilaaco wadamada ugu batroolka badan oo Nigeria ka mid tahay oo Angola ka mid tahay oo Equatorial Guinea ka mid tahay wadamadaasoo dhan billions oo 40 bilyan baa oo kala ka soo gala waana wadamada ugu faqiirsan oo kasii faqiirsan kuwa aan xitaa khayraad ba lahayn waayo waxa wada dhaca inta yar oo powerka haysatay iyo tuugta kale oo dunida ka timi baa la gasha marka waxa looga dagaalamo waxa jira urur la yidhaaho maaragtay EITI baa la yidhaha EITI waxay u taagan tahay Extractive Industry Transparency Initiative EITI waa urur dunida jira oo wadamada masaakiinta oo aan lahayn awood ay ku cilmi iyo maaragtay awood ay maaragtay xirfadihii kula soo bixi lahayn khayraadkooda ku ilaashan lahayn male Soomaaliya waxay anagu guddiga dhaqaalaha markaan ku jira xubin inaan ka noqono ururkaasi wuxuu caawiyaa dadkaas wadamada faqiiriinta ah si aanan xoolahooda looga dhicin Soomaaliya xubin kama ah ururkaasi shuruudaha uu caan ku yahay waxa weeyaan shirkadii saliid qoda waxay khasab ku tahay inay sheegto lacagtay siisa dawladda wax kasta ha noqoto waa heshiisay saxeexday kama gaban karto dawladduna waxay ku khasban tahay inay sheegto haddii $10 oil company ka soo galo si inay sheegto waxaasoo dhan Soomaaliya kama jiraan waxaana Soomaalida ku leedahay waxaan gadanaa xirmooyin iyo maaragtay batrool baan iibinayna marka shirkadahan hadda riigagan waan ku dheeraaday haddaan dib ugu soo noqdo kuwa riigaga dhisaya yaa eegaya heshiiska kontraadka inay ku qoran tahay haddii ay baddaasi saliid ku daadiyaan inay iyagu tahay inay nadiifiyaan oo billions of dollars ku nadiifiyaan waayo waxaa laga yaabaa contractskanba iyo detailka inayna dowladdeenu ka warqabin iyo dadkana u xilsaartay eegin marka waxaasoo dhan waa khatar bay ku tahay labada dhinacba waa seeganaa baddeennina waa seeganaa iyo kalluunka saliiddeenniina bilaashoo lacag jaban baa lagu qaadan karaa
marka ay riigag raqiisa ka taagaan oo suntii ku daaratana kalluunkiina waa inaga sumeynaysaa marka labadaba waa waayana kalluunkana waa waayana batroolkana waa waayana taa intaasaan uga baxaya cabdiraxmaan ismaaciil oo arday muqdisho jooga isagu waxa uu leeyahay baabalmandab iyo kuwaasoo kalaa ka mida maaragtay marinada ku yaalla oo soomaaliya u dhow sidee baan uga faa'iidaysan karnaa haddaan nahay soomaalida taasina waxa weeyaan arrinta kale aanan maaragtay ilaawo inaan sheego ka sokow badda dheer iyo khayraadka faraha badan iyo badda maaragtay ballaaran soomaaliya waxay ku tallaa meesha la yidhaho geostrategic meelaha dunida oo dhan qiimaha kale ee maaragtay military ahaan iyo maaragtay arrimaha ku saabsan tartanka wadamada ku tartama marka dhulkaasi ilaa xagga waqooyiga oo halka baabalmandab laga galo oo suweyska laga galo soomaaliya waa dhul ay leedahay oo runtiina ay ka maaragtay door weyn ka ciyaari karto marka waxaan u baahannahay inaan yeelano ciidan navy aan leenahay oo markaana maaragtay inaku wax ka qaban karno arrinta kaloo la xidhiidha waxa weeyaan oo qof baa wax iga weydiiyey waxaan ahaa axmed cabdirasaaq buu ahaa bangladesh joogo ardaya wuxuu ka hadlayey biyahan robabkan faraha badan oo badda ku qolqola oo markaana uu lahaa horta biyaha faraha badan oo luma maxaa looga faa'iidaysan waayo biyo xidhan oo kale loo samayn waayo waa runtiisa waxaa loo baahan yahay in biyo xidhan la sameeyo anigu dhowaan hadda bil 3 wiil ka hor garowaan ka imi oo markaa waxaan tegey meesha la yidhaho eyl oo maaragtay booqashaan ku tegeen aan soo arkaan rabay waxaas ku soo dhaca biyo badan oo ilaa halkaa kor iyo waqooyi ka yimaada oo soo mara tugag dhaadheer soo mara oo biyuhu waxay ku dhacaan marka dambe halkaasi eyl ka galaan oo badda ka galaan biyahaasi waa biyo nadiifa markaa sun iyo wax saameyna uma leh waxba dhici karaysa biyahaas oo kale sida meesha la yidhaho goobweyn oo meesha ku dhow kismaayo agteeda oo webiga la yidhaho juba uu kaga darsamo indian oceanka waxba yeelan kartaa faa'iido badan oo ah marka meesha ay iska galaan toga iyo maaragtay iyo baddu waxayba keenaan bahalka la yidhaho argoosatada iyo shrimka iyo kuwaasaaba aad uga baxo markaaba faa'iida yeelan kartaa laakiin waxa soomaaliya dib weyn ku ah waa caagagan balastiga oo la cabo xamar haddaad qofkii xamar joogaaba arki kara xamar xeebahood oo dhan iyo dhulkaas sugunda liid iyo dhulkaas oo dhan waxaa ka buuxa badoo dhan wada caag miidhan weeyaan caagaga iyo biyahaasaa ka buuxa taasaa moor khatar ku ah dunida dad badan waxayba leeyihiin 10 sano ka bacdi dunida waxaba laga yaaba kalluunka inuu ka tira bato caagaga ku jiraaba ka badan doono kalluunka badda ku jira marka arrintaasi waa arrin khatar arrinta kaloo la xidhiidha arrimaha sunta waa arrintan la yidhaaho soomaalidu ka warqabtaan dowladihii hore ku meel gaadhka oo wax qarsoon maaha oo waa wax bannaanka yaal waxay gadi jireen in sunta lagu daadiyo soomaaliya iyakoo badan oo barmilya ama maxaan ku dhahaa foostooyin badan oo suntaasi ku jirto markii dambana xeebaha soomaaliya kusoo dhace xaqiiqo jirta weeyaan taas soomaali badan baa samaysay waa waxa soomaalidu u baahan tahay inay dadka soomaaliyeed arrimaha eegaan iyo waxay tahay ka xisaabtama haddaan u gudbo maaragtay su-aashaad i weydiisay moderator waxaad igu tiri 2014 ilaa 17 dhowr dekadood oo barbara boosaaso kismaayo hobyo iyo hadda dekadan cusub oo wax aad loogu farxa oo garacad la yidhaaho oo waa dekadii ugu horreysay oo dad soomaaliyeed oo intay iskood su xilqaameen oo ay lacagtoodii isu geeyeen ay bilaabeen haddana waxbaan u malaynaya bishan January waa markabkii maaragtay dooniyihii ugu horreeyay kusoo xidhanaya waa wax aad loogu farxo waxaa jira arrin aan taaban oo aan ka hadlin oo ah arrimaha ku saabsan foreign policy ama arrimaha siyaasadda dibadda oo aan qorsheheena ku jirin waxyaalaha ugu waaweyn uu wadan leeyahay ka sokow batroolka iyo badda waxa ku jira iyo kalluumaysiga iyo maxaan ku dhaha beeraha iyo xoolaha iyo waxaas oo dhan wadanku wuxuu leeyahay waxa la yidhaha strategic national assets waxa ka mida kuwaas oo dhan waxa ka mida waa dekadaha dekaduhu waa wuxuu qaran leeyahay maaha wax la bixiyo marka dekada xamar shirkad turkiya oo alberg la yidhaahaba iskale oo la siiyey hadda iyadu waxay qaadataa 45% 45 dowladuna 55 bay qaadataa dakhliga ka soo gala sidee dunida ku dhacday wadan dekadiisii ugu weyneed oo wadan ajnabi siina maba dhacdo waxaas waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida madaxda ah oo kule wadan baan wax u qabanayna batroolkeedana bixiyay dekadaheedana bixiyay taasi waa midaas ta kale oo ah maaragtay dekadahaas iyo imaaraadka wadankan imaaraadka la yidhaahaa waxa weeyaan dekad Dubai la yidhaahaa bay leeyihiin dekadaas waa meel qaloocan oo laaban bay ku taallaa meesha naturalka ah oo maaragtay dabiiciga ah waa dekada waxyaabahan Soomaaliya ku leedahay ama ha noqoto waqooyiga ama ha noqoto Indian Ocean
halkaas weeyaan meelaha maraakiibta ka timaada Asia oo ganacsiga dunida iyo waxa keena ay rabaan inay ganacsiga keenaan oo Afrikada kala geeyaan marka dhulkaasoo dhan waxay qaataan shirkadahan ajnabiga wadamada yimaada konton afarta waxa 30 sanadood iyo 40 sanadood heshiis ay saxaan marka waxay rabaan 2 jiil oo soo socda bay rabaan ayihii inay u diidaan inay dhisanto dekedahaas oo lacag haddii Soomaaliya dhisanto waa waxyaalaha aad iyo aad nasiib darrada ah oo Soomaaliya maaragtay dhibaatooyinka ka jira marka dekedahaasi waxaad weydiisay waa maxay manaafacaadka ugu yeelan karaan kalluumaysiga waa muhiim weeyaan weli ma lihin dekedu waa 2 nooc tacaadiga oo aad loo yaqaana waa dekeda maaragtay bareecadii ka soo dhigato oo maaragtay kii caadigeed oo traditionalkeed laakiin dekeda waxa jira loogu talagalay kalluumaysiga inay lagu maaragtay ku soo xidhaan maraakiibta iyo maaragtay ay aad iyo aad qalabkii iyo si gooniya kalluumaysiga maaragtay loogu talagalay dekedahaasi kama jiraan hadda Soomaaliya xamar baa hadda xoogaa yar rabaa in laga bilaabo laakiin hadda insha Allah dekedan garaacad saan u fahmay kalluumaysigana waxay rabaan inay qayb ka mid ah ka dhigaan marka door weyn bay ka ciyaari karaan haddii la ballaariyo dekedaha oo dhinac kale oo iyaduna kalluumaysiga xoojisa lagu daro taas waa taas su'aashii kale oo ugu dambeysay aad weydiisay waxay ahayd tababaradan maaragtay wasaaraddeedu inay tababaro iyo waxa bixisay annagu tababaro yar oo runtii seminaara waa qaban jirnay oo waxa maadaama dad badan oo xirfad leh ayna lahayn wadamo badan oo ururo badan oo international oo sida USAID iyo wadamo kale iyo UN iyo World Bank tababare u qaadaan wadamo kale oo Seychelles iyo Nodo iyo wadamo kale iyo Mauritius iyo meelo iyo Kenya iyo bay geen jireen dad badan oo wasaaradda ka socda iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wasaaradahooda kalluumaysiga ka soo xulan jirnay laakiin tan saan u soo sheegay presentationkayga ama warbixintaydii hore waxaa loo baahay jaamacadaha Soomaaliya ama ha noqdo kuwa private ka leeyahay ama kuwa dawladda iyo internationalka jaamacadaha ugu waaweyn Mareykanka oo kale jaamacadooda ku yaala maxaan ku dhahaa galbeedka California oo caan ku ah arrimaha marine science research iyo waxaas oo dhan bay la sameyn karaan iyo cilmi badan bay bari karaan maraakiib badan baa waxa jirta oo jaamacadaha waaweyn oo Mareykanka oo kale leeyahay oo raba inay baddan Indian Ocean ka macluumaad badan laga hayo marka arday badan baa ka faa'iideysan karta waxa baran karta marka waa mawduuc dheer oo aan markale ka hadli karin laakiin intaas aan ku soo joojinay aad mahadsantahay wasiir qaybtii ugu dambeysay session-keena aynu geli doonaa su'aalaha waqtiga aynu kooban 3 su'aalood baan kusoo koobi doonaa waxaan u dhiibayaa Tooxow Bashaash fadlan muudka iska qaad السلام عليكم su'aasha u gal walaal aad iyo aad waqtigu nagu yaraado toos su'aasha u gal su'aashan toos u geliyaa wasiirkan waa maasan yahay wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa waxaa jirta oo dad badan ay sheegaan gaar ahaan dadka meelaha xeebaha ah ama markii hore ka kalluumaysan jiray aniga oo kale waxaan ka imaaday meel xeeb la marka waxa waayadii ugu dambeeyay waxaa la yiraahdaa badda Soomaaliya waagi hore waxaa laga heli jiray waxa la yiraahdaa cambar oo waxaa la yiraahdaa ishag aad qaali oo haddii aan sanadkii 4-5 mar laga helin laga yaabay ugu yaraan 3 mar laga heli jiray xeebaha waxaa la yiri sidii burcadbeeda u imaatay ama u dhalatay kadibna NATO ciidankan ah ay u imaadeen lama helin perception waxa jira ah in xabagta geedka ama maxaa la yiraahdaa cunnada libiriga sideedaba loo goosto oo sidaas loo waayay 15 sano ugu dambeysana aan cambar laga helin xeebaha Soomaaliya gaar ahaan meesha anigu hadda aan aad ka ogahay xeebaha Mudug iyo Galgaduud marka perception-kaas maxaa ka jiri kara maxaa kala socotaa su'aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay heshiiska hadda aad uga hadashay oo ku saabsan maxaa la yiraahdaa ishagan Chinese-ka waxaa ku qoran 24 nautical miles ama 44 kilometer inaan badda aan loo soo dhawaa karin maxaa la yiraahdaa ishagan maraakiibta kalluumaysiga maxaa la yiraahdaa ishagan oo China si maxaa la yiraahdaa small scale fishing-ka Soomaalida loo protect gareeyo sidoo kale waxaa ku qoran markabka ama doonta markay soo gasho Somalia exclusive economic zone markay soo gasho inay doon kasta sheegto weight-ka ay sido markay baxaysana sidoo kale inta tan ay qaado inay sheegaan oo ay imaadaan marka ahaas ma la socon karaa sidee loo socon karaa maxaa laga og yahay ayaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha kale aan rabaa inaan raacsadana waxay tahay aad baad mahadsantahay Tooxow walaal waxaan rabaa inaan ku soo halkan su'aal waa su'aasha ugu muhiimsan waxaan rabaa inaan raacsado iga raali ahaw
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir xalku waa maxay caqabadaha inta badan waa sheegnay sidee looga hortegi karaa sharci darrada kalluumaysigaas lagu ogaan karaa inay nagu xadgudbaan kuwa aan siinay maxaa la ii sheeg shatiga aysan waxaan ku heshiin naga qadaan sidee ogaan karnaa naato ayaga laftooda sidee ku ogaan karaa marka yaan ku hargarayn karnaa oo ku shaqaalaysiin karnaa oo waxaas la socon aad u mahadsan yahay tooxow aad baan uga cudur daaranayaa waqtigaa inagu yar waxaan u dhiibayaa cabdirasaaq xaaji cabdirasaaq cabdicaziis xaaji cabdicaziis xaaji muudka iska qaad toos walaal su-aasha ugu gala soona kooba oo labadii su-aalood ugu dambeeyeyna ku jirnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. عليكم السلام. إني مغلق هنا يا سيفي عنه. هذه. يا ورت أنا مقعي وحلي عبد العزيز حاج بشير إسماعيل. وحنا يحضر وحنا يقاسمها مارين تكلوميسك يلا صعدكم مراكب وزارة كلوميسك خيرات كباد دولة فدرالك. أدبن السلام يا وزير كي جوهرة دكتور عبد الرحمن محمد عبد الحاشي. sidoo kaleeto hay'adda cilmi-baarista iyo tiimka ku jira meesha oo participants-ka kulli waa salaamaya waxaan ugu faraxsanahay doodahan oo kaleeto oo xaqiiqada laga hadlayo inkastoo adinku aydnaan soo dalbanin laakiin nin saaxiibkaya oo wasaaradda igala shaqeeya yaa igu cazumay oo yiri linkigaas caawa ka soo qayb gal marka aad baan idinku hambalyaynayaa waxaan rabaa inaan ku soo dhow mar labaad iyo mar saddexaad baa agaasimay aad baan ugu baahnaa waxaan rabaa comments yar inaan ka horeeyo kabacdina wasiirkayga ka muwaadin ahaan in aan su'aal aan weydiisto insha Allah taala arrinta soo noqotay shatiga yaan rabaa in yar inaan ka iraahdo horta awalan markii u horeysay ayay Soomaaliya waxay bixisay shati kalluumaysi oo si muuqata oo daahfuran ay u bixisay aragti ahaan waxay ila muuqataa wax aad u wanaagsan waxay ka tarjumaysaa inaan tallaabo hore u qaadnay oo 5 sano iyo 10 sano meelihii aan taagnin hadda meelo ka sarreeya inaan ka hadlayno oo xoogaa dowladnimada inay hore soo dhaaqaday shatiyadaas waxaa su'aalaha ka mid ahaa maxaa Chinese loo siiyey Chinese oo la ogyahay background-kooda inay laakiin cid kaleeto oo soo dalbata ma hayno wasiirku waa noo sheegi karaa haddii Chinese kale European haddii la hayay waa noo sheegi karaa laakiin kulley hadda wasiirka hadda jooga cid kale ma helin wasaaraduna weli ilaa hadda cid kale ma hayso sanadkii labaad iyo xataa Chinese-kii baa weli badii jooga oo isla tiradii 30kii markab baa joogta laakiin cid kaleeto oo soo dalbatay security-ga mantiqada awgeed lama hayo maxay marka wasaaraddu qabatay wasaaraddu intii karaankeeda heshiiskeeda wixii ay ku dari kartay oo ugu muhiimsanaa way ku dartay waxyaalo badan oo Chinese-ku diidanaa oo maalan ba in la saaro cruise Soomaaliyeed in la saaro waa diideen sababtoo ah lafooda ay weli uga baqayaan sidoo kale inay dekada yimaadaanna waa diideen marka laakiin waxaa lagula gorgortamay sanadkaas inay saas ahaanayso wixii ka dambeeyana Soomaaliya insha Allah taala ay lagu isku taagi doonto annagana ay noo noqoto bal haddeer in aan dabagalka xagga technology-da inaan xataa tababar Soomaaliya ay ku qaadato oo ay saas ay ku ilaaliso wasaaraddu waxay isticmaashaa laba qalab oo loo soo kala gaabiyo VMS iyo AIS VMS waxa weeye vessel monitoring system halka AIS ku ka yahay automatic identification system uu ka yahay aad iyo aad marka xilliga ay soo galayaan badda every 2 hours ama every 1 hour hadda sanadkan dambe every 1 hour positionka meesha ay taagan yihiin every 2 days catchka ay qabteen inay soo diraan marka ay baxayaan inay ogeysiyaan marka ay soo galayaan inay ogeysiyaan actually sida aan u monitor garaynayno oo aan ula xiriirayno oo kii warbixinta la daaha aan u dabagelayno aad iyo aad bay u digtoon yihiin waxaan ka hadlayaa 31 markab oo kaliya ka hadlaya oo aan shiin dowladda Soomaaliyeed ay shatiga siisay aad bay u digtoon yihiin nimankan maanta oo aan kula hadlayo oo ay bishu 31 tahayna 31 hal markab biyaha Soomaaliya kaga ma jiro kulligood waxay u baxeen high sea bay u baxeen 200 oo nautical mile dibadda ay ka jiraan halkaasi ka kalluumaysanayaan waa dabcan waa jiraan maraakiib Chinese iyo maraakiib doonyo Irani ah Pakistani qola kasta
oo badaha soo galay waa jiraan laakiin ma aha wax dowladda federaalka wasaaradda kalluumaysiga oo dowladda federaalka wax ay ka warqabto iyo waxay wax siisay midna ma aha anigu kolley intaan agaasimo ka ahay iyo agaasimaha guud iyo wasiirkaygu wax aan ka ognahay haba yaraatee ma jiraan maamul goboleedyada qaar waa bixiyeen qaarna awood ka fara badan ayaa ku timid marka systemka AIS-ka automatic identification systemka wuxuu sheegayaa wax kasta oo maritime navigationka badda maraya waa qalab ay u baahan yihiin badda inay ku maraan marka waxaan arkaynaa wixii baddaas maraya oo dhan that's why marka waxaan aad ugu faraxsanahay dhankii dhalinyarada ahaa oo akhbaartii iiraaniyiinta sheegay dowladda federaalka ayaa sorry dib soo gal agaasime amale maqlay waa lagu maqlaa arrinta iiraaniyiinta oo walaalkii hadda uu ka sharqabiyey dowladda federaalka ayaa daba gashay markii ay aragtay waxaas oo ay Puntland iyo Galmudug iyo la xiriirtay oo ay sheegeen inay wax ka badan yihiin awood kalena aan lahayn waxay noqotay in miidiyaha adduunka iyo in la kaashado actually Iran toos baba iyada wasiirka iyo arrimaha dibadda ay xiriir ula wadaan oo arrintaas lagu dacweynayo sida ay ugu soo xadgudubtay doonyaha intaas leeg ma 120 kaliya waa ilaa 300 oo doon ka badan baa laga hadlayaa oo wada jiriif ah oo wada doonyo 20 mitir ilaa iyo 25 mitir u dhaxeeyo ama ka yar dartood ay ka yar yihiinba laakiin waxay wataan shabaago wada jiriif ah oo hoogiya baa oo badda kharibaya wataan hadda Iran waxaa jirta weliba shil ka dhacay xagga Puntland oo baxri Iiraani ah dad Soomaali ay ku dileen oo kiiskiisa laftiisa oo socdo ayaa jira marka dawladdu intay tabarteeda waa dadaalaysaa waxaan oran lahaa dhalinyaradu iyo saxaabo isniyad jabin maanta meesha aan joogno waxaan dhaanay shalay meesha aan taagnay wixii shalayna tii ka horeysaan dhaanay wasiir Cabdiraxmaan meel buu wax soo gaarsiiyay khayr Allah siiyo wasiir Bidhaan baa hadda jooga meel kale ayuu gaarsiiyay VMS-ka iyo qalabkan dad buu u tababaray dad buu ilaa Seychelles loo diray oo soo tusay sida wadamada ay badda u ilaashadaan oo la soo tababaray marka laakiin tabarteena waad garan kartaan meesha aan joogno waxaan idin sheegayaa markaas inay jabanina agaasime inoo soo yar koob waqtigo inagu yar anoo ka cudur daaranay inoo soo koob please waayahay waa soo koobay wasaaradana wasiirkeena gadaashiisa xataa dhowr qof oo dhalinyaro ah waxaan ugu soo biray oo jaamacadda City u badan oo fishery soo bartay maadaama dawladda hadda joogtaana aysan shaqaalaba qorin insha Allah waa noo qorshaysan tahay dad badan oo fishery inaan ku soo biirino way soo dhaweynaa su'aasha aan rabo wasiirkeena waxaan weydiiyay waxa weeye mudane wasiir caqabad adiga ku haysatay ya isla wasiir ka hadda jooga wasiir Cabdullaahi Bidhaan Warsamana haysata oo ah wadankan 3,333 kiiloomitir oo xeeb ah kaabayaal dhaqaale oo kalluumaysi ayuu u baahan yahay male hal dekad oo kalluumaysi male wasiir Bidhaanna ma hayo adigoo wasiirka horeeyay maadan hayn wasiirada ka horeeyana ma ayan samayn dhaqaale ayay u baahan tahay waxaa la oran jiray biyo sacbada looga dhargaa dhaqaalahaas xagee baan ka keenaynaa anagoon Sacuudi iyo Mareykan iyo cid kala weydiisan xagee adaa dhaqaalaha naga badiya xagee baan dhaqaalahaas ka keenaynaa aan kaabayaasha dhaqaalaha ku dhisano waa mahadsantahay assalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay agaasimaha intaanad ka bixin agaasime wasiirka dibadii wax markaba miyaad qabateen kulle adaa wasaaraddii joogee waxaad sheegtay inaad systemkii soo kordhiseen waxyaabo badan hello agaasime cabdicasiis baan rajaynayaa kusoo dhowow doctore mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay marka ugu horeysa tooxow bashaash su-aashiisu haddii aan xasuusto waxa weeyaan wuxuu yidhi xeebaheenna cambar baa jiri jiro oo laga heli jiray buu yidhi waayahan dambe waxaad moodaa buu yidhi cambarkii laga heli jiro oo qaali ahaa lagama helo hadda badda waa dhici karaysaa isagu inuu iga xoog roon yahay runtii macluumaad badan kama hayo laakiin haddii ay hadda laga waayo cambarkii waa inuu wuxuun jiraan wax sababa oo keentay marka runtii macluumaad intaa dhaafsiisan ma hayo laakiin waa war u baahan waa arrin u baahan in maaragta xog dheeraada laga helo intaasaan taa uga baxaya waana mahadsan yahay waa ka xumay inaanan jawaab intaa ka badan aanan siin karaynin haddii aan u noqdo su-aashii kale oo ahayd wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan
heshiisyadan Chinese-ka wuxuu yidhi oo kalluumaysiga lala galay boqolkiiba 24 nautical mile ama mailka badda ah looma ogola in ay soo galaan shirkado ajnabiya maraakiibtoodu iyo kalluumaysatadoodu inay soo galaan waa runtii weeyaan marka inay soo galaan maaha waxay mas-uuliyaddeeda tahay in dowlad goboleedyada kuwii awoodda Puntland waxaan ogahay ciidan yaroo navy oo badday leedahay imaaraadku u dhiseen bay leeyihiin maaragtay ka caawiyaan oo capacity la oo dooniyay leeyihiin ma aqaano dowladda Puntland waxay qaawato inay maaragtay 24 nautical mile waa meel ay gaari karaan weeyaan dooniye ay haystaan marka ma garanayo inay wax ka qabtaan iyo in kale oo ay hubiyaan inay shirkada Chinese soo galeen laakiin gobolada kale shanta kale afarta kale waxaan ogahay inayna lahayn dooniye lahayn waxa kale oo ka hadlay iyo in la wargeliyo hadday soo galaan dowladda la wargeliyo maraakiibta ajnabiga ma ka warqabo anigu mana arag intaan warbaahinta ka arkayay dowladda goboleedyo ama cid kale oo soo wargelisay dowladda oo arrimaha ka soo wargelisay su-aashii markaa wuxuu yidhi muxuu noqon karaa xalku sida wax looga qabto kalluunka sharci darrada waa maxay waxa xalku waa iska caddahay waa sidaan hore u sheegay ciidanka badda aan u baahnay navy baan u baahnay wadamo badan baa diyaar oo Turkigu ka mid yahay marka waxyaalahan fahmaynin waxa weeyaan waa maxay sababta dowladdan Turkiga oo kale oo xoolaheeni la dhacayo iyo kalluunkeeni haddii diyaar u tahay inay caawiso waxay dowladdu u diidan tahay ma garan karo waa su'aal loo baahan yahay in dowladdu la weydiiyo ka jawaabto waan ogahay madaxweyne Erdogan aad iyo aad buu rabaa inuu arrintaas Soomaaliya uga caawiyo waxay leeyihiin shirkadda ugu weyn dunida oo maraakiib nooc kasta ilaa aircraft carrier samayn karta oo nooc kasta samaysaa jirta iyakaa diyaara inay heshiis baa la odhanayaa waxa kaliya qabanayaan waa badda ilaalinayaan ciddii rabta waa jeekareen karta hadday rabaan Maraykanku iyo hadday rabaan European Unionku maraakiibtoodu ha hubiyeen inayna howlo kale ka wadan xeebaha Soomaaliya Turkigu marka arrinta intaasaan uga baxay iyada Cabdicasiis haddaan u soo noqdo horta Cabdicasiis waa ku salaamay aad baan ugu faraxsanahay inaan ku maqlo codkaaga iyo su-aashan aad maaragtay soo weydiisay boqolkiiba boqol waxa weeyaan waa macluumaadka sheegtay waa arrimo muhiima weeyaan marka arrinta ku saabsan shatiyada haddaan in yar ka taabto waxaa tiri horumar baa laga gaaray anigu saan hore u yidhi heshiiskii lagu bixinay shatiyada waataan waxyaalaha ugu waaweyn aan qabtay beedintan maaragtay yaanako wasaaradda baan wada qabanay marka laakiin waxa weeyaan waa runta shirkado kale oo badan oo ajnabiya ma imaanin oo maaragtay shatiyaan la siiyo ma odhan laakiin waxa weeyaan shirkaddan Chinese-ka ah waxa la siinayay in la siiyo waxa la yidhaaho symbolic value waxa la rabay in la yidhaahdo sidaad hore u sheegtay muddo dheer dowladda Soomaaliyeed si rasmi ah uma bixin shatiyo marka waxay ahayd wax yaroo kooban hadday ugu badato maxaan ku dhahaa 5 ama 10 la shati oo la maaragtay la kor joogi karo la eegi karo monitoring la eegi karo in la sameeyo dunidana ogaato wadamo kale waxaan ogahay nagu yidhi bal waxaan rabnaa sanadka ugu horeeyaan eegana sidaad wax u maamushaan haddii ay si fiican iyo amni iyo jiraan iyo dhibaato jirin annaguna waa ka fakaraynaa marka dambe marka su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan haddii shirkadaha Chinese-ka kaba soo qaad 30 shati la siiyey maxaa loogu cusboonaysiiyey marka dambe waa takaloo labaad waxa weeyaan maxaa tiro yar loogu cusboonaysiiyey lacagta naga soo gashay lacag qiimo leh maaha $1 million wax macna leh ku fadhida ma jiro boqolaal waxa jira cashuuro iyo meelo kale milyan naga soo gasho laakiin wax yeeleynta inoo sameynayso iyo magaxumadeena iyo taasa kun jeer ka dhib badan marka ta kalena waxa weeyaan Cabdicasiis anigu markii aan bilaabanay oo aan rabnay inaan la galno gorgortanka anagu modelkan keenay oo aan ka tagnay wasaaradda intaan markaan anigu ka tagay waxay ahayd wadanka la yiraahdo Seychelles waa wadamada East Africa ugu sareeya oo maaragtay maamulka iyo maaragtay shatiyada la bixiyo lacagtooda ugu badan tahay anagu waxaan yiri Seychelles hadday lacagtoodu tahay 100 oo kale anagu waxaan kor saarnay 30 baan ku sii danay 130 baan ka dhignay sababtaan uga dhignay waxa weeyaan waxaan ogeyn in aanan lahayn awood aan ku monitor gareeno ama ku eegno badda iyada ku ilaalino marka inay wax yara xariyaan waan ogeyn marka lacag dheeraadaan ku darnay
marka su-aashu waxa weeye qiimihii lagu gaday oo aan anaku propose garaynin oo ahaa 100 wax ka hooseeyo 20 iyo 30 oo kaliya ah baa lagu gaday why sababtu waa maxay loogu gaday marka waxa weeyaan waa su'aal aan anigu ka jawaabi karaynin markaana taas waa xaqiiqo jirta maxaa loogu cusboonaysiiyey mar labaad oo renewalka loo siiyey haddii markii horeba la odhan karo dan waxaa la dhahaa inaan bilowno oo inaan dunida soo noqonay loo sheego su-aashaas waa su-aal aan ka jawaabi karaynin weeyaan marka shirkado kale awood iyo dadaal ma la sameeyey oo waddamo kale ma loo tegay oo ma la eegay inay doonayaan oo effort ma loo sameeyo ma garan karo waxaa dhici karaysa inayna jirin ma rabo inaan waxaana jirin qof ku nabo laakiin waxa weeyaan waa maxay waddamada loo tegay oo si rasmiya loogu tagay oo loo diray wufuud iyo dad u tageen oo markaa wax documenta laga hayo muxuu ahaa jawaabtu waddamadii kaloo lagu yidhi oo maaragtay doonayay waxay ahayd waxaad tiri cabdicasiis way diideen baa tiri shirkadaha chinesku inay xeebaheena yimaadaan hadday diideen shatiga waynama sinan iska tagaan ku odhan waaba intaasay ku dhanta sidaad noogu sheegi kartaa annaka noogu dhigteed gareen kartaa kheyraadkeeg annaka $1 million wax macnuu noogu fadhiyaa ma jiro waddankeena waxa ayna soo galay maxa dariskaan bixino iyo darbaxadaan ku dhufanaaba nooga qiimo value badan oo dunidoo dhan ogaan leedo kheyraadkeyga bilaash waa adan kartaan marka taasi kolba aniga iyo maarka wax macquula ilama arka jawaabi lama eka waxaad ka hadashay cabdicasiis arrimaha ku saabsan VMS-ka iyo AIS-ka VMS-ku waa nidaamka loogu talagalay in aad maaragtay ku ogaatid maraakiibta xeebaha maras oo kale aad eegtid nidaamkan aad leedahay AIS-ku waa automatic identifying system waxa weeyaan horta waxa rabaa 2 daqiiqo inaan qaato dadka u sharaxo dadkaana ka warqabin AIS-kani wuxuu yahay AIS-kani waxa weeyaan waa transponder waa signal buu bixiyaa markabku ku xidhan yahay ujeedada loogu talagalay waxa weeyaan badda maraakiibtu markay ku jiraan sayna 2 markab isugu dhaceen habeenkii kore hir badda hadday jirto gudcur tahay haddii aadan transponder kaa wadan oo kala ma arki kartid markabka kale intuu ku jiro ku dhow yahay marka safety reasons baa loogu talagalay laakiin afka ingiriisda waxa la yidhaahdaa the law of unintended consequence wax baad aliftay markaasaa wuxuu xal u noqday waxaadan ka fakirinba oo adiga xisaabtaba kugu jirin marka AIS-kan iyo transponderskan oo signalka bixinayo oo signalka diraya waxay noqoteen satelliteskii cirka joogay oo cirka joogay baa satelliteskii baa waxay qabteen transponderka signalkiisii bay qabteen marka transponderka signalkiisii markay satellites ku qabteen baddeenii bay waxay ku sheegaysaa with GPS precision markabku meesha uu ka jooga badda oo dhibciyo badan oo marka dambe maabaad ku samayn kartid baad arki kartaa laakiin AIS-kan maraakiibta qaadataa waa maraakiib culayskeedu uu maaragtay abtu xad gaadhsiisan yahay oo maraakiibta maaragtay xad gaadhsiisan yahay maraakiib ciidda ka badan oo waxaa jira aana gaadhin culayskoodu halkaa kuwaasi AIS ma qaataan transponder ma wataan transponderka kuwa aan wadan waa kuwa badan oo sharci darrada qaata waa yak marka sidaad marka hadday wasaaraddu isku hadleynayso AIS dowladdu waa ka indha xidhan tahay wixii kale oo dhan oo badda ku jira oo dhan marka maxaa qorshihiinu muxuu yahay wax looga qabanaya annagu qorshahan keenay markaan ka tegay wasaaradda intaana ka tegin wuxuu ahaa niman maaragtay engineers oo Marokana baa waxay keeneen maaragtay solution cajaa'ib ay keeneen waxaa la isku keenaya artificial intelligence iyo drones wada socda oo maaragtay labadooda wada socda oo droneska iyo artificial intelligence-kaas baa ku sheegaya waayo baddeena 1.2 million square kilometers maraakiib maraso oo million maaragtay haddii ay signalkii una jirin sidaad ku ogaan karta marka qorshaha ay keeneen 200 milyan waxaan jeedaa 200,000 200,000 oo dollar bay nasiinayeen marka waan rabnay technology-gaas oo kala qorshihii proposalkiisii intaana ka tegin baan qornay marka waxa xal u noqon lahaa arrimaha badan iyo maraakiibta waa technology-gaas iyo wixii u dhigma marka weli waxa weeyaan waxay caddeynaysaa haddii wasaaraddu AI isku wareegayso inayna weli fahamsiisaneen maaragtay sartu meeshay ka qorantay waxyaalo badan oo wasaaraddu samaysay baa jiro waana ugu hambalyaanayaa waana tababarada uu sheegayay cabdicasiis waana ilaah mahadi wax lagu farxaa way tahay laakiin waxaan u baahannahay su-aashii ahayd oo kale muxuu noqonayaa infrastructure-kii loo baahnaa buu yidhi waddankani wuxuu u baahan yahay in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee badda kaabayaashii waaweynaa oo ahaa maxaanku idhahaa qaboojiyaashii fish processing facilitieski maxaanku idhahaa wixii loo baahnaayoo dhan lacagteedii waa lacagtan aan helay hadda oo batroolkan aan helay oo billions of dollarska weeyaan
waana taan qorshahaygii dambe ku sheegay boxaasoo dhan iyo dariiqyo iyo kaabayaal oo dhan 3-4-5 bilyan oo dollar baa lagu dhisi karaa waxaasoo dhan markaasi lacag ciida badan inoo dhalinaysa dowladdu weli proposal ma keentay hadda waxaa batroolka lacagtii ka filaso projectionskeedii way haystaa ma soo bandhigeen infrastructure dariiqyo iyo dekedaha iyo waxay rabaan iyo kalluumaysiga weli dowladdu ma soo bandhigtay revenue-ga ay filaso meel ay rabto inay wax kaga qabato dowladdu ma soo bandhigtay waa su'aal u baahan in la weydiiyo maraakiibtan iraniankan iyo bakistaniyiinta iyo maxaanku dhahaa yaman iyo egypt waxa weeyaan waddanka la yidhaaho ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan waddanka la yidhaaho indonesia qof haweenaba waa wasiirka kalluumaysiga waa policy bay leedahay oo dunida oo dhan laga yaqaano markabkii waddankooda soo galo sharci darro ah tviyada iyo media intaa loo yeedho bay qarxisaa that's what she does way qarxisaa markabka malaysia wax indonesia maraakiib soo gasho illegal ma jirto qof kasta waa og yahay way qarxisaa markabkii soo gala marka kuwan iraniyiintan iyo waxaan u baahannahay 20 dooniyoodan soo gadano oo markoo iyagoo dhan qaar ka mid a dejino maarkasid maraakiib dambe oo Soomaaliya sharci darro Iraniya soo galay arki mayso waayo badda iyo zoonkaygii bay soo galeen xaq baan u leenahay inaan sabno waa ka baxay waa maasanta aad baad mahadsantahay wasiir waxaan wasiirka uga mahad celinayaa waqtigiisa uu inoo soo huray iyo juhdiga uu geliyey lecture-ka dheer ee uu inoo jeediyey iyo weliba falanqaynta ka dambeysay juhdi badan baa ka muuqda warbixin badan baa ka muuqata waana sababta ay tahay dadka dalka maxay ahayd madaxdiisa ahaa ee ubicdiisa ahaa inay bulshada soo hor yimaadaan waxay inoo sharafayda inuu nagala soo qayb galo barnaamijka agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha iyo madaxda kale ee wasaaraddaba mahadka hibad wuxuu aad ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalkooda haddii ay rabaan inay barnaamij noocan oo kala ka hadlaanna mahadku wuxuu soo dhaweynayaa platform in loo samayn doono in ballan loo qaban doono in iyaga laftigooda ay bulshada hor iman karaan agaasimaha wasiirka iyo cid kasta oo magaca wasaaradda ku hadlaysaba waxaan arkayay dhalinyaro badan oo aad uga cabanaysa khayraadka dalkee la boobay waxay ahayd wiigii hore nin aan la shaqaynayo injineera petroleum engineera oo Turkiya ayaa wuxuu igu yidhi wuxuu iga wareysay Soomaaliya dabadeed maxaan u joognaa maxaan qabanaynaa maxaan sanu samaynaynaa buu igu yidhaahday story sheegaya marka waxaan wuxuu igu yidhi way ay u joogaan Turkidu ay halkaa u joogaan waxaan ku yidhi strategic waanu leenahay sidan baanu leenahay waxaan u sheegay inoo kale aanu leenahay khayraad wuxuu si toos ii weydiiyey anigoo og in ay jiraan maraakiib Turkiya oo loo samaysanayo khayraadka shidaalka ee Soomaaliya in lagu soo saaro anigoo og in Turkidu ay ka sameeyeen exploration iyagoon xaqna dhulka Soomaalida meelo badan amba su'aashaas ay ku dhacday what can you offer khayraad badan baynu leenahay haddii ay qacmaha dadka u nugul ay ku dhacaan khayraadkaasi siduu wasiirku inoo sheegay waxaynu gaari karnaa guulo badan وحين حراش إنه هالمدي ويصير مية واحد كله قدر لها ما runtii aad iyo aad baan iigu mahad celinayaa runtii fursaddan aad siiseen in aan dadka Soomaaliyeed iyo khaasatan dad badan oo dhalinyaro oo arday iyo jaamacado dhigtay iyo ayay future-ka inaan fursad u helo
oo wixii aan maaragtay wax lagu wadaagi karo oo maaragtay macluumaada waxaan idin rajeynayaa guul iyo runtii horumar baan maxadkiina u rajeynayaa iyo inaad hawshaan ummadda Soomaaliyeed u haysaan sharaf bayna yahay inaad maanta fursadda siisaan aad baad u mahadsantihiin aad baad mahadsantahay wasiir dhammaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha maxadka hibad aad baad u mahadsantihiin sessionku saasuu inoogu xidhan yahay habeen wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام